diidayo shaqada loo dareeray daawanayo diidayo shaqada loo dareeray daawanayo wadalkaagii doqonyoho wadadkaagii dabalyoho wadalkaagii doqonyoho wadadkaagii dabalyoho digniine halkani waa barnaamijkii xiisaha badnaa oo aad hadahan oo kale aad dhageysataan isla markaana waxaanu idin soo gudbinaa macluumaadyo xiiso badan marka aad doonayso inaad la socoto akhbaaraadkii ugu dambeeyay Soomaaliya damacaagu markuu yahay inaad la jaan qaado marxaladaha ka jira dalka Soomaaliya isweydiintu waxay tahay intee in la eg baad kala socotaa xaaladaha ka jira dalkaagii hooyo ma la socotaa mararka qaarkood inay dhacaan xogdaamo iyo waliba afkaar kala duwan oo inta badan shacabka Soomaaliyeed badankood aysan la jaan qaadi kareynin haddaba caawa maxaa cusub adaag dareemi doone u diyaar garow dhageysiga diidayo shaqada loo dareeray daawanayo diidayo shaqada loo dareeray daawanayo wadalkaagii doqonyoho wadadkaagii dabalyoho wadalkaagii doqonyoho wadadkaagii dabalyoho wadigniine wadigniine isdaryeelo dadka soo raac wadigniine isdaryeelo dadka soo raac وهاجاك صاحب يال سعد وحي سوق هذا حلقي أدري سجرتين برامج كي هبي ونكسن صومالي ويني هبي ونكسن صومالي ويني هبي ونكسن انتي هتساكن دكتور خلالي مرقاك وهولا الله هدوش هبي ونكسن انتي هتساكن دكتور خلالي مرقاك وهولا الله هدوش هبي ونكسن habeen wanaagsan dunida meel walbood inaga maqlaysaan u diyaar garooba dhageysiga barnaamijka habeen wanaagsan caawa waa arbaco taariikhdu waa 5 bisha 9aad ee September 2018 qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo si kulul u weeraray farmaajo iyo Khayre Axmed Madoobe ayaa yiri Soomaaliya way ka duwan tahay wax laba qof oo maamulo waqtigan Soomaaliya way ka duwan tahay wax ay qof iyo laba qof iyo saddex qof xukumi karaan maanta أحمد مدوبة وسكولو ورا دولة فدرال كصومالية إسلام مركانا كتل مامي دولة أنا أوجين دنتا أي لا ده هاي إسلام مركانا هيري دولة وقت كان وحي أباحن تهاي إن الصحة وحقو الشيء إنه دولة يوحيابا بدن أو دولة فدرال كصومالية كوسابسن وهالمغرب دونتان أحمد مدوبة ورا كقاور وكقاضي دولة فدرال كون عاو يفتيمي دونه عركتي الشعب كصومالية وينو إيجي دونا قف كستو أنا دقي سنة يوحو عركتي سكنيبا دونا يا صحن مدحدا دولة فدرال كا يهجاميها جبلان يا صحن مدحدا الدولة iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe yaa saxan farmaajo iyo Khayre oo dhinaca iyo Axmed Madoobe aragtidaada ayaad dhiiban doontaa waxaana kaga qayb qaadan doontaa hadduu Allah idmo Februarka laakiin ogeysiis haddaadan joogin South Africa barnaamijyada doodaha waxaad ka dhageysan kartaa magaca ku dul qoran hadda madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe waxa la yiraahdaa Generalka Saadaal Production Saadaal Production qoraalkiisu wuxuu ku dul qoran yahay madaxweyne Axmed Madoobe Saadaal Production waxaad kala socon kartaa doodaha aynu qabanno afkaaraha dadweynaha iyo aragtidoodana waxaanu soo gelinaa haddaadan South Africa joogin channelka YouTube-ka la yiraahdo Saadaal Production una diyaar garooba barnaamijkii uu dhamaystiran madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa si kulul u weeraray maanta dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu madaxweynuhu sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo u baahan in la fahmo Axmed Madoobe ayaa tilmaamay hadal inta badan dadka ka yaabiyay dadka indheeya siyaasadda Soomaaliya Axmed Madoobe waxay ku tilmaameen qof aanan ogeyn magaalada uu joogo xaaladeeda oo ka warqabin oo ka fikiraya magaalada Muqdisho Axmed Madoobe maleeshiyaadka uu hogaamiyo Kismaayo dhibaatay ku hayaan waxa jira dilal iyo waliba kufsi loo geysto haweenka ku dhaqan magaalada Kismaayo hanti boob badan ayaa ka jira Kismaayo barakicin baa ka jirta dad fara badan baa lagu dhibaateeyaa magaalada Kismaayo laakiin Axmed Madoobe wuxuu arkaa magaalada Muqdisho oo kaliya caawayanu iftiimi doonayeen marka hore bal aynu ka
bilowno waxa ka jira kismaayaha uu maamulo kadib ayaanu iftiimi doonaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo sida uu weeraray siyaasiga Axmed Madoobe oo rajo ka qaba 6 bilood kadib inuu noqdo madaxweynaha Jubbaland mar kale maleeshiyadka uu hogaamiyo ee maamulkiisa hoostaga waxa ay dhibaato ba'an ka geystaan magaalada Kismaayo waxa kamid ah kufsiga waxa kamid ah boobka la boobo hantida shacabka waxa kamid ah in dad fara badan dilal kala duwan lagu geysto gudaha magaalada Kismaayo waxa kale oo jirta in dhibaatooyinka isaga madaxiisa ku dhacaya oo had iyo jeer soo noqonaya inay aad u fara badan yihiin oo aan la soo koobi karin qabaa'ilo kala duwan oo ku nool Kismaayo ayaa aad ugu dhibaatoonaya maamulkiisa sidoo kale waxa jirta inaysan cadaalad ka jirin magaalada Kismaayo dad fara badan waxay cadeeyaan in magaalada Kismaayo habka loogu nool yahay uunan ahayn hab waafaqsan nidaamka iyo kala dambeynta guud ee ku aadan fahamka iyo waliba is-afgaradka maamulka halkaasi ka jira qabaa'ilo fara badan oo Jubbaland hoostaga ayaa wali ku dhibaataysan maamulkiisa laakiin Axmed Madoobe ma arko dhibaatada ka jirta Kismaayo ee wuxuu arkaa arinta ka taagan magaalada Muqdisho maanta shirkii ka furmay Kismaayo wad ogeedeen arrimo badan baa lagu falanqeeyay Axmed Madoobe waxa uu soo bandhigay qaladaad uu ka arko dowladda Soomaaliya wuxuuna sheegay in dowladda Soomaaliya inaan ugu dulqaadan karin inta iyo in ka badan hadaba weerarka uu Axmed Madoobe ku qaaday dowladda federaalka ayaa nageysan doonaa Soomaaliya way ka duwan tahay wax ay qof iyo laba qof iyo saddex qof xukumi karaan maanta lama qaadan karo dowladaha dimuqraadiga iyo dowladaha waaweyn caalamka qaabkay ku dhisan yihiin dhul wada booga oo wada cadowa oo wada danganaya laguma maamuli karayo waxaanan arki jiray rabitaankaaga waxay u baahan tahay in lagu maamulo kubusan iyo walaalow maxaa jira iyo sidee waxu jiraan iyo waxaan maxaan wax ka qabanaa taasaa Soomaaliya lagu maamuli karaa maanta sidanaan rabaayo sidaan lagu maamuli jiray laguma maamuli karayo sidaa daraaddeed waxaan aad u soo boorinayaa golaha oon saaxiibaday madaxdana ka codsanaya in waxyaalaha la falanqaynayo lagu daro xaaladda dhabtida waddanku meesha uu ku jiro iyo sida ay tahay waxaad moodaa waddanku hay'adihii dowladda inuu burburbadan ku yimid xisaabtan la-aan inay jirto baarlamaankii baan arkaynaa meesha uu marayo oo hoggaankiisii iyo nooca loo bedelayo sida lagu bedelay siday noqonayso la doonayo inuu u noqdo cidda la xisaabtamayso golaha fulinta inay baarlamaanka iyo rabaan inay la xisaabtamaan oo shaqadii baarlamaanku ay meesha ka baxday xeerlaalintii iyo garsoorkii baa arkaysaa iyo cadaaladii meesha ay marayso iyo qaabka dhaqanku uu yahay iyo cidda la keenayo sida loo keenayo hadda Soomaaliya inay qofkii qof dilo la dilo oo qisaas ay dhacdaay waa shay diina saaxiibada beesha caalamka nimanka madaxweynuhu waxaan doonaynaa falalka dilka inuu joojiyo waxaan ku yidhi annaga ilaahay wuxuu leeyahay walakum fil qisaas xayaatun yaa ulil albaab magaalada Kismaayo saaka joogno markay 8 nin oo isku jufo ah ay laba nin intay soo qaaday si kibira falaalo ugu dishay intii maxkamadda ciidanka loo saaray uu toogtay maanta wuxuu gaarayaa qofku inuu qofka kale waxa uu ka qistanayo qoriga intuu dhiga la feertamo sababtoo ilaahay markuu leeyahay qisaasta nolol baa idin ku jirta dowladda federaalka ayuu ku eedeeyay gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuusan ogoleyn qofkii qof dila in la dilo wuxuu ku tilmaamay dowladdu inay ka baqayso beesha caalamka wuxuu ku tilmaamay sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu baasaboorka Mareykanka u diirnahayo qofkii qofku dila Muqdishona wuxuu yiri Axmed Madoobe cadaaladda ma fiiriyo wuxuu eegayaa buu yiri Maxamed Cabdilaahi Farmaajo baasaboorka Mareykanka uu wato wuxuu sheegay dowladdu inay go'aan ku gaartay shabaabkii wax dila in aan la dilin qofka shabaabka ahna uu Kismaayo ka cararo Muqdisho uu tago qofku doonana ku dilo markuu qofkii uu doono Muqdisho ku dilana wuxuu yiri wuxuu og yahay argagixisada al-shabaab Muqdisho markay joogto in aan la tooga karin arrintaas horta xaqiiqo ma tahay dowladda Maxamed Cabdilaahi Farmaajo markii la aas-aasay ilaa iyo hadda weligeed wax ma la toogtay markuu su'aali February 2017 iyo September 2018 ma jirtaa dowladdu fal tacsiir ay fulisay ama qofkii qof dila ma la toogtaa horta arrintaas maxaa ka jira haddaba warbaahintu waxay daba gashay dib aynu u eegnay dhammaan dadkii maxkamadaha ay xukumeen oo dowladda federaalka u xirnaa waxaanu ogaanay hadalka inuu ku sax yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland tan iyo markii madaxweynaha dalka ka noqday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo qofkii qof dila Muqdisho lama toogto waxa la kansalay in la toogto qofkii qof dila argagixisadu markii ay qarax geysato xabsi daa'ina lagu xukumayaa haddii ay dhacdo in maxkamadda qalabka sida ay dil toogasho ku xukunto intii uu madaxweyne yahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaan haddana idin sheegayaa sida
axmed madoobe uu sheegana aanu ka dhagaysanay intuu madaxweyne dalka ka yahay maxamed cabdilaahi farmaajo qofkii qof dila lama dilayo arrintaasi baaritaan ayaan u galnay dowladda federaalka waxay noo sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo labada xafiis ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaa nagula sheegay inay tahay codsi beesha caalamka ka yimid codsigaasi ayaa lagu tixgeliyey beesha caalamka inaan la dilin qofkii qof dila inta uu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo talada dalka hayo waxa kaloo la ii sheegay baasaboorka maraykanka inuu dhibaato ku tahay oo hadhow tibri lagula xisaabtamayo maxamed cabdilaahi farmaajo jagada markii uu ka dego haddii dowladdiisu qof ay toogato waa mamnuuc sharciga intuu maxamed cabdilaahi farmaajo uu joogo taa waa la xaqiijiyey ilaa iyo february iyo hadda haddii aad maskaxdaada dib u eegto maxkamadda ciidanka qalabka sida qofka way xakuntaa laakiin lama toogto waa la xukumaa laakiin lama toogto marka labada sane ee hadda dhiman waa 2 sano iyo 4 bilood ama 2 sano ilaa iyo 3 bilood baa dhiman 2 sano iyo 3 biloodna ma arki doontaan magaalada muqdisho iyo dowladda federaalka oo qofkii qof dila tooganaysa haddii xitaa maxkamaddu ay xukunto wuxuuna sheegay maxamed cabdilaahi farmaajo in dhammaan dadka xabsiga ku jira waxaa ugu horeeya wasiirkii waad ogeydeen cabaas raajininkii dilay maxkamaddu dul toogasho ay ku xukuntay warqadda waxay taallaa xafiiska madaxweynaha soomaaliya mana laga yaabo inuu saxiixo waxaa kaloo ku xigay dadkii faraha badnaa ee lagu xasuuqay 14 October soobe magaalada muqdisho dhammaantood qaarkood waxa lagu xukumay dil toogasho ah maxkamadda ciidanka qalabka sidana way xukuntay laakiin maxamed cabdilaahi farmaajo waa uu diiday in uu saxiixo warqadda lagu daldali lahaa arrintaas horta waa xaqiiqo axmed madoobena taa runta ayuu ka sheegay mana jiri doonto oo waan hubaa in badan oo ka mid ah dadku haddii xitaa ay maskaxda dib u eegaan ma arki doonaan mana arkin ama ma caday karaan in farmaajo uu taagan qofkii qof dila la toogto waxa kaloo xaqiiqo ah argagixisada ogeydeen waagii xasan sheekh maxamuud qofkii qarax geysta ama qofkii dila maxkamaddu markay xukunto waa la toogan jiray sida aan aniguba iloobi karin oo ninkii muqdisho ka soo ceyriyey wariyaashood ogeydeen ninkii dhibaatada ba'an noo geystay oo nagu kalifay inaan dalkii ka cararno dhowr iyo 20 wariyana ku dilay muqdisho xasan xanafi xaaji waad ogeydeen isagoo Kenya u sii socdaalaya in gacanta lagu dhigay lagu togtay magaalada muqdisho haddaba ogaada marka dowladda federaalka qorshaheedii horena kuma jirto qorshahan hadda yaalana kuma jiro qofkii qof dila haddii maxkamaddu ay dil ku xukunto xabsi daa'ina loogu bedelayaa codsigaasi beesha caalamku ka yimid cabsi ku aadan baasaboorka madaxweynahana saameyn bay ku leedahay marka lagama yaabo mana dhici doonto waayahay waxaan rabaa marka dadka inaan fikradooda eego yaa saxan madaxda dowladda iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ma dowladda saxan ma madaxweynaha Jubbaland miyaa saxan ma dowladda qaldan ma madaxweynaha Jubbaland saxan ma Axmed Madoobe qaldan oo ma maxamed cabdilaahi farmaajo dowladdiisa saxan horta yaa saxan dowladda Soomaaliya iyo hogaamiyaha Jubbaland marka waxa soo wici kara qof kasta oo madaxweynaha Jubbaland ku qanacsan waxa kaloo soo wici kara qof kasta oo taageersan dowladda Soomaaliya ma jirto qof la caburinayo laakiin su'aashu waxay tahay yaa saxan madaxda dowladda iyo hogaamiyaha Jubbaland madaxda dowladda iyo hogaamiyaha Jubbaland haddaba inta aan dadka fikradooda eegin maxaa haysta ama ka jira dhulka uu madaxweynaha ka yahay Axmed Madoobe waxa wanaagsan labada dhinacba inaanu ka eegno si aynu u helno fikrad saliima magaalada Kismaayo maxaa ka jira haddaba ogaada marka magaalada Kismaayo waxa hogaamiya Axmed Madoobe oo ah mid kamid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada mar waliba falal kala duwan baa ka dhaca warbaahintu way ogtahay waxaanu la soconaa inay ka jiraan kufsi waxaanu la soconaa waxyeello kala duwan inay ka jiraan waxaanu ognahay boob hantiyadeed inuu ka jiro waxaan ognahay xitaa in ay ka jirto goobtaasi dhibaato loo geysto dadka deegaanka ee dhulka wax ka deganay Jubbaland waxaa la dhibaateeyaa qabaa'ilada degan Jubbaland waxaa la dhibaateeyaa qabaa'ilada xitaa golo wasiirro ku leh madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland dadku u dhashay ayaa la dhibaateeyaa waynu ognahay marka intaa oo dhibaato ah inay jirto waxa laakiin isweydiin leh hadduuba intaa ay dhibaato ay Kismaayo ka jirto Axmed Madoobe muxuu u arki waayay dhibka Kismaayo oo uu arkayo dhibka magaalada muqdisho marka insha Allah qof kasta aragtiisu dhiiban doona laakiin dooddu waxay ku saabsan tahay oo kaliya yaa saxan madaxda qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayro dhinaca iyo Axmed Madoobe oo dhinaca kale ka soo jeeda yaa saxan marka
إلا انقلافك دحيا ليه يا صحن يا أديك إسلام هو كل قلدي هاي بو كل صحن هاي فضلا يجي نجيسو صادال برودكشن أو أحجنا اليوتيوب أو أديك لا صعون كرتو فكرة هذا أنا أديبا كرتو برنامج جدا مركي ولما فيسبوك ولا جت ترتريا وحلا جريد وانا جنال كصادال برودكشن مقع صادال برودكشن وحقوقي هاي أحمد مدوب الدشيسة عاو وحن إيجي يا دولة الصومالية يا أحمد مدوب يا تاجر بدن dadku yay ku qanacsan yihiin yay taageersiin Axmed Madoobe ma safar ma jay qayre aawan arki doona qof kasta wali telefoonka ma qaban feebarkaas dooda uga qayb gali kartaa aniga wali telefoonka ma qaban haddaad Axmed Madoobe taageersan tahayna isoo wac waad aaminsan tahay Axmed inuu saxan yahay haddaad aaminsan tahay dawladdu inay saxan tahay farmaajo iyo xukuumaddiisuba ay saxan yihiin fadlan ila soo xiriir waxaan caawa miisaami doonaa yaa saxan dawladda Soomaaliya iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe fadlan haddaadan joogin South Africa ku biir channelka YouTube-ka Saadaal Production magaca Saadaal wuxuu ku qoran yahay madaxweynaha Jubbaland dushiisa Saadaal Production markaad ku biirto barnaamijyada halkaas aad ka dhageysan kartaa live-ku markuu dhamaado waa laga tirtirayaa aniga ha isoo weydiin oo ha oran barnaamijka inteen ka dhageystaa Saadaal Production waa meesha adiga maqli karto haddaadan joogin Koonfur Afrika qadadka telefoonada ayaan hadda eegaya yaa saxan Axmed Madoobe iyo dawladda Soomaaliya qof kasta aragtidiisu dhiiban doona assalaamu calaykum وعليكم السلام walaal soo dhawow aragtidaada khilaafka ka dhaxeeya hogaamiyaha Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya farmaajo iyo qayr waa isku dhinac Axmed Madoobe dhanka uu ka soo jeeda yaa saxan والله أنا waxay la tahay waxa saxsan ragaan ku soo bartay America wax waayo dil ka hortu meesha dilka walaal anagu dilka ma hadlayno dil qodobkii kale aan ka hadlayo weeye waxaan caawa ka hadlaynaa waxa taa khilaafa wuxuu u dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe wuxuu aaminsan yahay farmaajo iyo qayr in ay wada kasta u marayaan sidii ay u dhibaateyn lahaayeen reer Jubbaland wuxuu leeyahay faragelin qaawan baa lagu hayaa wuxuu ka aaminsan yahay farmaajo inuu doonayo inuu meesha ka saaro wuxuu aaminsan yahay dawladdu inay dagaal kula jirto Axmed Madoobe maamulka Jubbaland dawladda Soomaaliya waxay leedahay maamulka Jubbaland qalad uu ku taagan yahay xukuumadda uu hogaansami laayahay waad ogtahay faragelin qaawan ayaa laba dhinac ka dhacday waa tii Kismaayo wafdi dawladda ka tirsan laga soo celiyay arrinta marka dhaxtaala dawladda Soomaaliya iyo Axmed Madoobe ka hadlaynaaye yaa kula saxan yaana kula qaldan farmaajo iyo qayr oo dhinac ah iyo waliba Axmed Madoobe والله أحمد مدوبة qaldan waayo ma garanayo systemka politiga siyaasadda hay muxuu ku qaldan yahay bal ifaafaa waa gobol wuxuu ku qaldan yahay waa gobol qofkii iminka hadduu wax dilo oo toogasho adduunka waxaa ka dhigan qofkan wixii uu galgalaybo waxa la yiraahdaa waa la daaway qofkan uu jiranaa waa la waqti xal baa loo yeegaa qofkii haddii qof loo dilo qofun baa la dilayaa si dhamaanayo isagana waxa waaye Axmed Madoobe waxa weeyaa wuxuu ku taagay systemka adduunka hore u maray ma yaqaanabo waxay dawlad goboleed ku yahay waa inay iyaguna inay sida iyo federaalka halkan ka jirto kale oo ma aha dadku inay isqabsadaan meeshu waa gobol walba wasiir uu leeyahay laakiin Axmed Madoobe wuxuu ku eedeynayaa farmaajo mar waliba in dawladdiisu ay farageliso wuxuu sheegay in dhaqaalihii laga jartay oo aan waxba la siin wuxuu yiri magacii Jubbaland bay dawladdu lacag ku qaadanaysaa aniga waxba iima ogola wuxuu yiri qabaa'iladii baa la isku dirayaa madaxweynaha wuxuu ku eedeeyay inuu gadad wafdi u diray oo beelweynta mareexan uu kicinayo waxa lagu eedeynayaa dawladda qabaa'ilada degan ee dhulka Jubbaland ayuu leeyahay Axmed Madoobe hawshaasi ka wadan halkan marka miyay kula saxan tahay inay dawladdu sidaa samayso ما سمعناش وايو إن أنا استجع سيستم كجرين وياه دولة واحد ما سمعناش دولة وقار وأم قمت هاي إن يجوا نضد اسمه مو كسدا وياه لكن وحن لنا يا وده السيستم كسياسة الدنيا كم كم ومدور بينه وقرائن وحمر كتلي حمر أبوه مقطع عبدول مقطع شيخ شريف مقطع كل جود حمر لا وضع مقطع way ma santahay waxay ahayd gabadhii ugu horeysay waxay tiri Axmed Madoobe systemka dawladnimada ka qaldan dawladda Soomaaliya ayuuna ka qaldan yahay bay tiri waxayna eeda siisay Axmed Madoobe waa ma santahay qofka labaad ayaan haddana telefoonka qabanaya assalaamu calaykum عليكم السلام مين مقشاه aadan ku maqlaa soo dhaw aragtidaada ku biiri Axmed Madoobe iyo dawladda Soomaaliya yaa qaldan yaana saxan أحمد مدوبة أب وسحن ياي haye
wadanka hogaankiisa gabadhii hadda hadlaysay waxa moodaa siyaasaddiina xoogaa inay wax ka garanaysaa haddana ay wax ka maaragta hadalka way calinaysa ma garata aad iyo aad waxa weeyaan qof walba waxaa fiican marka lasoo qabtanayo inuu hadalladiisa waxa weeyaan axmed madoobe horta iyo xasan sheekh waa laba nin oo isku mid ah aad iyo aad wax kale ma aha waa dadka qorax joogta ee wadanka aan ka bixin ee sharciga qofka gardarrada leh iyo qofka laga gardaran yahay intaba sharciga ku qaadi kara kuna sugu kara amniga wadankana gadgad ugu talin kara ma garata waayahay laakiin maxay tahay waxyaabaha ka caraysiinaya oo mar waliba u weerarayo axmed madoobe dowladda soomaaliya maxaa laga hadlaynayaa maxay kula tahay dowladda soomaaliya waxay horta meeshan dowladi kama jirto laba nin baa meeshan ku dhaqleeya lacagna hadda kastoo way ka aruursadeen waxaaba fiicnaan lahayd horta inay noo baneeyaan kursiga waxa weeyaan sharcigiina waa ay ku tunteen waad aragtaa maxay ahayto baarlamaankii sida loogu tuntay oo la kala diray xasan maxay ahayto khayr waad aragtaa hadda habartii dhimato unbuu xabaalaya ilmihiisa la dhintay xataa tacsi kama dhigin oo muusan dhihin hataa saqiiradii dhintay maxay ahayto saqiir aakhira allaha nooga dhigo zawaraasa inta maa faanfaan buuba xabaal korkeeduuba isku sawirayaa faanfaan bay la tahay mid halkaana digsiyuu wataayo shiinayskii buu leeyahay waxaa laysiiyo oo maamul goboleedyada iyo soomaaliya dowladdii buu wax ku cunayaa waxa weeyaan aad iyo aad wax sharciya oo meeshan ka jira ma laha laakiin dowladdu waxay leedahay axmed madoobe wuxuu isla haysiiyey jubbaland umana ogolo maamulka federaalku inuu booqdo haddii wafdigii dowladda uu kismaayo u diiday isla markaana uuna raalli ka ahayn dowladdu xitaa inay maamusho oo uga kontroolayo sida inuu yahay dowlad ka madax bannaan federaalka soomaaliya miyaynan habboonayn axmed madoobe inuu dowladdu u hogaansanaado wasaaradaha tixgeliyo wafdiga dowladda kismaayo lagu soo dhaweeyo una hogaansanaado حقيقة رسمية عادي عاد ويفعلنا الله إذا لكن ومركي ويان مركي لبعتنين أو هو بيسان أما كنت بقول يكنتنين أو هو بيسان يمكن لجو صادر ولا لجو يرى هذا ساق في صدق قبلها شوف الله ساق لكعية ساق له وحية أي دولته أي دولة فترة محل عبد الله فرماجي حس على الخير أي تهوب صاصيان العكس صاصيان يرى هذا أرضي قبلها ساق في صدق ساق مع واحد ساق جوا واحد صورها فانتما نمن اسكتشر وعلى يرى هذا قبيل ماشي كما تكبر زورها فانتما واحد قلقلها كولا ورد اسكتشره بريحان با كتشره وغادينا كتشره بالبهانتا كتشره مشرتين با كتشره هوية اون ميد كما قدين با كتشره انت سنة وانمن معايا تحس على الخير اي فرماتة اي درسدين اي العكسيين اي دهين معايا هاي تصوق الكعية قبلها فورة قلقلتاية كالكعية ماشا مامل قبلات كوايا وانا اللي اقلها كدب الشقية مدحوينها جبلها وحوايا مركة معينا اسلام واستحيها عادي عاد اساقانا حقو التاجر ماشا وقتليانا واميلنا بالدليو لكن عدوغا الله كقبطه وما سنتها waxay ahayd qofkii labaad ee caawa aragtida shacabka waa ma santaa qofka ku xiga ayaan siinaya assalaamu calaykum عليكم السلام يا مخلص عبد الله aad baan ku maqlaa soo dhaw aragtidaada yaa saxan yaana qaldan maamulka federaalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo Axmed Madoobe عبد الله wax la yiraahdo maamul federaal iyo wax is haysta ma jiro Axmed Madoobe iyo maxaan ku dhaafay farmaajo isma haystaan waa siyaasad jambal dadka lagu tuuray oo Soomaalida hawiye ay dadkan dhagoolka dhaqamada lagu seexinayo wax is haysta ma jiro waa laba nin oo walaale qabiil bayna hadda wax yar xoogis ay kaga dhaxaysa adigaana lagu dhigaya jambalkaas wax is haysta mala daaro ninkii la dhahayo dhan ogaadeen ha ahaado kii halkaas ka yimid kismaayo iskugu yimaadeen meesha hubkooda soo dhigteen dhinacan way uga soo dhamaatay marka siyaasadan adaa lagu mashquulinaya dadka hurdaa lagu mashquulinaya wax is haysta malaha federaalka sheegaysa dawladdu waxay lambar 4 maxaa ku dhahaa marka al-muqarrami wax ka qaban weyday maxay tahay ciidamada sheegaysa xagga u tiraysa war ciidamada hawiye inta laga qaaday wiilashi baa loo geenayaa kismaayo inay meeshaas dagaalka galaan maxay tahay waxa leeyahay wax jira ma jirto abo wax is haysta ma jiro nimankan waa niman saaxiib ah al-shabaab inta loo soo qaaday wiilasha loo geenayaa oo leeyahay nimankaas lagu la dagaalo al-shabaab kana iyaga wata dhulkii al-shabaab ku jirtana waa dhul hawiye iyagaana wata Axmed Sheekh ninkana shabaab ah oo kulligood baa wada shabaab wax la yiraahdo waa la is haystaa iyo federaal iyo ninkana isku iyo faragelin bulsho warabo kacab waa show la dhigayo oo naloo dhigayo annaka inta aragtay wad aragtaa inta hurdayna aday ku taala wax la yiraahdo waa la is haystaa iyo laakiin dadka hurdaya oo aad adigu aaminsan tahay inay riwaayada u jilayaan Axmed Madoobe iyo Farmaajo waa dadkee وهوية
waa doqomaha hawiye la yiraahdo iyaka waa dadka loo dhigayo daarood oo dhan maanta Kismaayo joogaa Jubbaland buu joogaa daarood oo dhan waxay joogaan waa ninkii Kenya joogay xataa intuu Ethiopia tagay waa ninka wasiirada soo dhigtay laakiin Kismaayo waxaa jooga madaxweyne u dhashay beesha Habargidir oo la yiraahdo Axmed Ducaali Geelle Xaaf iyo madaxweyne u dhashay Beelweynta Xawaadle oo la yiraahdo Waare oo iyo madaxweyne u dhashay beesha Raxaweyn oo la yiraahdo Sharif Xasan Sheekh Aadan marka madaxda kale waad leedahay waa daarood oo halka ku kulansan maxaad iiga sheegi kartaa war madaxweynaha waxaan ku dhaxaafka sheegaysa iyo nimankan waa niman maqaar saar xaafka laftiisa baan ku dhaganay hooyadiisa badaaroda nimankan buu la shaqeeyaa waa ninka ay galmudug ka kicilaadaay waa asagaana runta ku sheegaya qof dadka og iyo qof ogin ninka ay ka kicilaadaay oo badaxaynayo garab badaxaynayo waa xaaf waa ina maamulka galmudug loo dhiibo nin iska dhal ah waa ina loo dhiibo hadduu maamul uu run yahay oo jirto maxaa loo faragelin waayay ii sheeg maxaan rabaa Puntland maxaa loo faragelin waayay maxaa loogu iyaga faraha loogu hayaa ma ii sheegi kartaa wax la yiraahdo dawlad baan jirin wax la yiraahdo federaal baan jirin niyo meeshan way qasan tahay dagaal midka ugu xun baana dhacay waana lagu soo hob urursaday laakiin waa yahay taan u soo noqonaya dawladda Soomaaliya waxa ay Axmed Madoobe ku eedeysay inuusan ogolayn in Kismaayo wafdi loo diro waad ogeed sargaal laga soo magacaabay Muqdisho Kismaayo markuu tagay garoonka laga soo celiyay waa tii uu isaguna yiri dawladda Soomaaliya waxay faragelin ku haysaa dhulkayga oo gada ayaa wafdi loo diray marka dagaalka noocaasi ah ee federaalka Muqdisho jooga iyo Axmed Madoobe Kismaayo u dhaxeeya Axmedna uu ka qayl dhaaminaya dawladdu way ka qaal dhaaminaysaa yaa kula saxayana kula qaldan dagaal maslaxada maaha labada nin iyaga qabiilahaan isku haysta dhulkaas bay isku haystaan maraxaan iyo gedo ay Kismaayo halkan baa la isku haysta wal aragta banaanbaxyada halka laga sameeyay kuwa iyaga qabiil isku haysta walaa wuxuuna u daneeyay dadka meesha degan walaa faraar ahaan iyo dawladahan buuna dad ugu direynin nin wuxuu rabaa asaga taxta raxmadiisa yimaada inuu Axmed Madoobe meesha ka qaado nin taxta raxmadiisa soo gala oo uu asaga gacanta ku qabto oo Kismaayo qabsado meesha la isku haysto waa Jubbaland ma jirto wax la yiraahdo niyo federaal iyo nin baa loo diray Jubbaland baa la rabaa in la qabsado marka labadan cid baa ku herdamaya Jubbaland maraxaan iyo ogaadeen baa ku herdamaya ogaadeen oo maanta uu ku soo aruuray laakiin taadan ku raacaya marka taadan ku raacaya yaa saxan marka labada qabiil labadii mas'uul laba qabiil baad ka dhigto waxa tiri farmaajana waa maraxaan Axmedna waa ogaadeen bal aan taada ku yeelay yaa saxan marka labadooda midna ma saxsana laana meel ilahan bay isku haystaan dhul ilahan bay isku haystaan maba saxsana qabiil bay rabaa inay ku qabsadaan Jubbaland maxaa saxsan mid saxsan kuma jiro dadka meesha degan ee hurda ee loo hubaystay oo meesha inay ka kacaan baan u sheeglaa mid saxsan ma jiro waa mustacmarad waaye waa mustacmarad la hubeeyay oo la rabo in dadka lagu tabargooyo meesha degan nin hubay nin saxsan ma jiro anaa ku sheegay nin saxsan ma jiro waa dawladus adaa waxaana dhan lagu dhigaa labada nin meesha isku haystaan waa nin maraxaan iyo nin ogaadeen aniga ogaadeen maraxaan maxay igu kala duwan yihiin waa laba nin iima kala xigaa hadduu ka qabsado labada midna aniga casaan iima samaynayo marka wax federaalku ugu halgamayo uu leeyahay dadka Jubbaland jira xoreynaya Axmed Madoobe wuxuu ku haystaa maxaa ku dhaha xaaraan dhuxushiibu gooyaa ka buugoya asagana markuu tago dhuxushiibu gooynaya Kismaayo qabsanaya dhuxushi dadkana waa la dabargoynaya dhulkii la nabaad guuriyay dadka iska daayay bal inuu dadkan cadow yahay uusan meeshaan dan ka lahayn uu deganayn waxaad ku garanaysaa oo ku tusaysaa dadka biicadii bay la dagaalamayaan iska dhaaf bini'aadankii dhulkii bay nabaad guurinayaan aawi ninka Soomaaliga marka meeshaas uu wax u galay oo uu cadka ugu jiro waakee Soomaaliga meeshaas ugu jiro cad ninka geedahaagi goynaya oo dhulkaagi nabaad guurinaya oo kale laakiin qofka dhulka goynaya dadka kuma fahmayaan ma dawladii Soomaaliya ee Muqdisho ayaa dhulka nabaad guurinaysa waxaad kala jeedaa Jubbaland halka kala saar Jubbaland asaga nabaad guurinaya kan kale imaadana uu nabaad guurinaya xoolahan dhuxusha laga qaadana niman baa ku shirkaysan oo lacagta ku kala qaata dhulka adoo joogtid baa wax lagugu mashquuliya adiga Jubbaland waxay diidaysaa amarka madaxweynaha Jubbaland qof kasta meesha soo galo wuxuu Axmed Madoobe ka taran kana ka taran waxaas waa joogad badeelayo labada nin way is og yihiin damiyaan qabiil inuu madaxaan qabsado Jubbaland kana ogaadeen inuu Jubbaland qabsado rabaa wax kale ma jira boo وهي أداة ما سنتهي وحا أي أحد قبل كفكرة دوان دادكي نصو وعي أو آمسن إن مامولكا فدرال كصوماليا إيوه وليبا دولة قبلات كتشبلان لابدو با أي روايات وجليا وسيدي قبل آمسن تهي دادكا ديغان دولكا ديغان كجبلان قبل سوحي تري لابدو با إد صحان مجرتو فدرال كروا قلدين هاي
hogaamiyaha Jubbaland waa qaldan yahay waxay ahayd qofkii saddexaad qof kasta oo soo wacaya aragtidiisa annaga waa ka madax bannaanahay wax shaqo aan ku leenahay qofka aragtidiisa ma jirto isaga ayay gaar u tahay isaga ayaa fikradiisa gudbinaya isaga ayayna gooni u tahay kaliya anagu su'aashan weydiinayna qofka xiga ayaan haddana siinaya assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعاد بنكو سلام يا وكا قاعد متى لمدة أيام هودا كوسو مرينيا سودو يا صحن يا نقلدن هجاميها جبلان يا فدرال كمقدشو أرتقى ودتك الله يودن وهالفكرة أنا قد هاجرتو قلت لي أرتقى عليها السياسي تدني ما كشتكتو أو صوماليا أو هدرتان هلا أو صحافة دادينا كنت ماما يدو iyo dadka madaxweynada tirada badan sheeganayo anigu waxaan u arkaa horta Mooriyaan fuugo aan u arkaa ma garatay waayo kuwa waa usoo noqonaynaa fadlan kuwaas waa usoo laabanaynaa insha Allah Axmed iyo federaalka kaliya ka hadlaynaa marka Axmed iyo federaalka ayaad igaga jawaabi doontaa way saystaan mid waliba wuxuu leeyahay mid kaaba gardaran federaalkii Muqdisho waxay leeyihiin Axmed Madooba gardaran Axmedna wuxuu leeyahay federaalka iga gardaran marka yaa saxan yaana qaldan federaalka Muqdisho iyo Axmed Madoobe وعدهاي فرماجة قلدان سببته وقلدان هني وانكو شرحي كرها إيه شرحيه أن فرماجة كور أحمد مدو مش هو معموله هي قفك عادي سيابو والبوا كوي ماذا حوك كوي ماذا حيلته كوي ماذا مو معموله مرك وفرماجة للدورين هاي أحمد مدو ماشى سجى معمول كاس أحواها أن فرماجة الكيسة يورر كان أحمد مدو ماشى كسماعي هوري وقدر عليهم قبسي بدن باك دعي قوي يحبط بيسوت مكان ولا يتهال رونادي فرماجو مالك لا دورت إلا أي هدرتان دولة لمدي واحد لا دورت كم شقية وكشقية غير كيسة ما سنادي لصور دافي لا تاني يسديتي سنة لصور دافي وحيابي لوجو يتهال رونادي وحيابي تبنا ينودن شدو قصة لها سو shaatiga dawladda federaalka Soomaaliya adeegsanayo ma garatay laakiin adigu maxaad ku cadeyn kartaa inuu madaxweynuhu faragelinta adiga aad tilmaamayso madaxweynuhu ka dambeeyo maxaad ku cadeyn kartaa waxa ku cadeyn karaa Cabdullaahi dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada wadankan horta dastuur baa yaalo haye dawlad waxa kala hago dastuur haye maamul walba dastuurkaas ayuu maamulka kala kula dhaqmaa qofkii dastuurka ka waxaad gudbo dambiga isaga iskale maamulka macnaha Jubbaland qodobka 25aad iyo qodobo kale oo hadda aan xasuusan waxa ku qoran hadii ciidanka ama mas'uuliyiinta maamulkaas dawladda federaalka inay soo farageliso in wax laga bedelo hadii ay rabooto waa in ay la sheer gareysaa iyagoo qodobada sharciga raacaya ma garatay haye sharci waaye haye wixii mooriyaanimana waa mooriyaanimo haye farmaajo isagoo ku maqan Turki ayuu wuxuu soo diray oo asagoo telefoonka hagaaya asaga iyo qeyre isku garabsanayaan nin ciidanka xoogga dalka dhan uu madax u yahay la dhahay Bakismaayo ka soo degay haye dad baa meesha maamulo cid ma jirto cid ka xaniyo badan ma jirto haddii caga jugleen iyo in la isku awood sheegto meel lagu maamulayo Maxamed Siyaad Barre wadanka ilaa ay hadeertaan uu ka dhinto ku joogi lahaa dadku horta iyo waxba fahmaan waxna ma bartaan wixii dhacay in tusaale laga qaataa loo baahan yahay reerka ugu tabarteer Soomaaliya maanta cid caburin karta ma jirto haye wixii hadii aad 2 bilood 3 bilood caburisto maalintii bisha afraad wuu iska ka difaacaya culeysku iska dulqaadaya farmaajo iyo qeyre maalintii la doortay ilaa ay hadeertaan waxay ku mashquulsan yihiin maamul goboleedyadii xasan sheekh marka dawladda uu ahaa meesha maamulayay in ay ka bedelaan rag ayagu ay wataan ay meesha keensadaan laakiin dawladda federaalka Axmed waxay ku eedeynaysaa inuusan Axmed raalli ka ahayn dhaqaaqa dawladnimo wafdiyo badan oo Muqdisho laga diray ayuu Axmed Kismaayo ka soo celiyay marka haduusan ba u hogaansanayn dawladda federaalka Soomaaliya maxay tahay sababta eeda loo siinayo dawladda federaalka oo kaliya بليز أو كبريا جارس سي وكاجي جوابها waxaan jeclaan lahaa jaarsina isbison
موضوع يرو كبحسن عن كتر ما كرت كعب صنايع may موضوع inaan ka bixin because hal qayb kaliya ka hadlaynaa fadlan waxaan ka codsanayaa tan noo faahfaahin waynu ka dhageysanaynaa laakiin ha ka bixin faahfaahin inaan ku darsado haye axmed madoobe dad hadda iga horreeyay waxay ku tilmaamayeen inuusan maamul aqoonin haye marka safarka uu ka soo laabtay waxyaabaha hadda aan kaaga sheekeynayo marka ay dhaceen shir jaraa'id buu qabtay si aqlaaniyada ixtiraam ku jiro isagoo dhahaya weliba ku tilmaamaya dowladda federaalka aabaha maamul goboleedyada Soomaaliya waa dowladda federaalka waan ixtiraameynaa laakiin si gurigiisa sandaaqada ka soo galin buu yiri haye si raganimo loo hadlay mar walba uu hadlayna wuxuu taabtaa boogtu taabtaa farmaajo iyo boogta markii dadka qofka hadii uu asaga qaldamo oo qalad galo haddii qaladkiisa uu garan waayo haddii boogtii loo taabto inuu asaga inuu intuu garabsado oo waxaa la rabaa uu calaashaan garab baxo ma sameynine damdam baa la yidhi gadaa waxaa laiskugu geeyey ciidan laisku urursaday farmaajo halkaasoo odayaashii hawi intuu xamar ku shiriyey buu wuxuu intii wax ka maqasho oo doqontaa baa cayaal ku dareen kulli waxaa laga wada dejiyey gadaa iskugu tagay waxaa gada loo tago oo dhan wax kale ma ahan war dad dhan baa mas-uuliyad u dhiibtay wixii af lagu waayo iyo xal iyo sharci oo adiga aadan sharci u lahayn lagu diido sharci u soo mar sharci haddaa ku weyso walaalo ku raadi rag walaalo wax ka badan waxba kuma lahan waayahay marka qaybta axmed usoo noqo maadaama qaybtan aad u faahfaahisay axmed qudhiisa dowladdii wafdigeedii buu hortaagan yahay marka miyay kula qurux badan tahay taliyo ciidan oo muqdisho laga soo magacaabay oo reer jubbaland oo axmed madoobe in adeer laxmiya la ah in laga celiyo kismaayo la yiraahdo annaga nagalama tashan maxay kula muuqataa أنا واضح حيري لها أحمد الله أصحابه وسميه وعلي والله أنا واحد لها هاي بالأخلاقاتين دولة لمن وحكمة تقان دولة لمن وما هم فيلم الجرايو ومسؤولية الشرعي دستور سيد دستور كو واحد انتي الدستور خوف كو واحد قد بورت الصوق قلبا من قبنا عيان هو أصلا خوف كان لو كان عيو أما هو حبسكم متيسن كرو وربي الشرعي بعمل تكستا واضح حيري لها بعنيكا lama sameynine wala cili xamar lagu ciliyay dibba asaga iyo hub iyo ciidan isaanad inta la soo daba dhigay baa Jubbaland gobolada ay ka talisay qayb kamid ah oo beesha Mareexan ee degan xaggaas raskugu keenay farmaajo reerkiisa muu dadku waxa qabanaya reerkiisa xaniye ay shalay ku qabsan waayay Kismaayo iyo Axmed Madoobe maanta asaga uma qaban karo raganimo asaga uu waayay hawiye muu rabaa inuu inta meesha ku kaxeeyo wiis ku biyo hawiye meesha waxbay ka degan yihiin qabiilada hawiye وحلاشة أو بقرطويلا باش كان أحمد أوبي أيضا وحبي قيب صدان واحد باتانا كم تاجنو نيكاس واني سوماليا هتو شل قلتنا أو قلنا الشباب كلا شقيري ما تهدي ومسؤولة هاي وحبا معمولة يا نمكي هدي بروتك على هدي لا قف فيك كيسة وبدل كرا أنا وما أركو إنه قلت سمعنا وحاول كا إنه صحيح سجل واحد كتبه معلومة ربنا وحا حوج يتحدي كلا لقلا بحتاي إن أولا لا قاضي يا حلكة أنا اللي لما قال يودها بفارق في إعلام بلو عذاب عبد الله waayahay waa mahadsan tahay sida quruxda badan aad fikirkaaga noola wadaagtay waxa uu qayb ka yahay dhageystayaasha caawa aragtidooda dhibanaya yaa saxan yaana qaldan xukuumadda federaalka farmaajo iyo qayre iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu ahaa dhageystihii caawa waa dhageystihii afraad ayuu ahaa wali waxaan la ahay taageerayaasha dawladda waxa isoo waco kaliya hal qof oo ku qanacsan maamulka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho laakiin inta kale waa dad aan ugu qanacsanayn sida loola dhaqmayo maamulka hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe qof kasta aragtidiisa xor buu yahay fadlan hadaadan joogin South Africa waxaad iga soo wici kartaa waxaad igala socon kartaa channelka YouTube-ka la yiraahdo Saadaal Production wuxuu hadda ku qoran yahay Axmed Madoobe dushiisa ku biir channelkaasi si aad doodaha ula socoto insha Allah qofka ku xiga assalaamu calaykum soo dhaw aragtidaada yaa saxan yaana qaldan adiga aragtidaada maamulka Muqdisho iyo waliba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe وأنا وابع أنا أخبار حناقصنا بكي وحنت حناقصنا أنا قبيل إن كهذا مركز تو عن سكده إن ضدك سومالي دولار كود دكتور سومالي مدير أو كذا مركز تنهوي أو حلقة الشيء هوي وضدك مدني مدو هوي وضدك حقوق ضدك تنسلو هوي وضدك كعل هوي وضدك عنت فرماتين تقبل كل أنت
daaroodo wixii laydinka gala ka raalli ahday soo dhawaada marka waa ku baryaa bal tayda horumari tan kale hawiye meel ii dhig waxaa aniga muhiim ii ah inaan horta marka hore jawaab aad isiiso kadib ayaa tan dambe ka hadli doontaa yaa kula saxan axmed madoobe iyo maamulka federaalka ee muqdisho maamulka federaalkaa saxsan waa dowlad maamulka federaalka muxuu ku saxan yahay bal muxuu ku saxan yahay wuxuu ku saxan yahay caawa la joogo bakiin madaxweynaha uma joogo oo xuquuqdeeni iyo wax aan heli lahayn africa soo uma fadhiyo hadday dowlad jirin maxaa la qaban karaa haye qabyaalad iyo hebelow hadday jirto waa in loogaga dambeeyo maxamed cabdullaahi farmaajo go-aanka madaxweynaha waaye dadkaana weligood gob waa jiri jiriyey looma diidan waa niman odayaal oo madax ah laakiin inuu nin la arko gooni madaxaan ahay oo yira madaxweynaan ahay waa wax adduunka ku qoslo laakiin axmed madoobe wuxuu ku eedeynayaa dowladda soomaaliya inay mar waliba farageliso dhulka uu isagu madaxweyne ka yahay lagala tashan taliya ciidana la iska magacaabay kismaayo loo diray ciidamo ayaa gada lagu diyaariyey miyay kula saxan tahay axmed oo aan la wargelin in dowladdu ay ciidamo ku dhex beerto maamul uunan ka warhay ninka hogaaminaya magac uu doona ha wato gudoomiyaha gobolka xitaa waa qasab in gobolku hogaaminayo wax uun laga yidhaahdo ama uu ka warqabo may horta waa laga yiri waa laga leeyahay barkee axmed madoobe madaxweyne oo iska wadaa madaxweyne iska wado oo wadanka soomaaliya u tali camal iska wado haye farmaajo iska dhaafay xasan sheekh oo ka soo celiyay nimanka uu diray jid oo meesha ka soo celiyay waa nin oday oo Soomaaliyeed waa nin dadka jecel waa nin ma dhahayn huwa laakiin dhowr madaxweyne meel isla wada geli karo haye ra'yiga waa kaas madaxweyne aniga gabar hawiyahan ahay xasan cali qayre kama ahan madaxweyne muqdisho waxaa ka farmaajo ma fahamtay waayahay marka adigu waxaad leedahay axmed madoobe gardaran dowladda federaalka saxan waxaadna adigu aaminsan tahay dowladdu inay xaq u leedahay iyadoo aanan wargelin meeshay doonto inay ka tegi karto jubbaland go-aankay doonto ay ka qaadan karto oo aan lagala tashan axmed madoobe adigu taasaad aaminsan tahay sooma maya axmed madoobe waa lagala tashanaa waa haddaba talada waa kugu fadhiyaa lama diidi karo waa lagala tashanaa laakiin waxaan suurtagalayn asaga inuu meel ku dhago oo yidhaahdo aniga shirka jubadaas lasugu tego waa towdhahay aniga hoteelaan kaligay seexday kan waa la bedeli kara xataa axmed madoobe nimanka wada bedeli kara niman cusub baa la keeni kara sida loo bedelo maahan inuu dagaal dhaco maahan in la yidhaahdo qabiil hebel iyo waxaa isku ogaadeen iyo marixaan isku dhegan no waxaas dhan qalad waa ومحسن تحي وحي هيد نجيستي الشراد عاوة أركتيد الشعبك يا صحن يا نقلدن مدحضة دولة فدرال كصومالية مقدشة فرنجيدو يهي يهو كامية جبلان أحمد مدوبي قف كل حد السلام عليكم وعليكم السلام ولا صدوا أركتيد هذا كبيري يا صحن يا نقلدن مامل كفدرال كا فرنجيدو مقدشة يهي يهو كامية جبلان والله صاحب labadoodaba micnaa waa dad mas'uuliyiin ah hase ahaatee dowladda Soomaaliya marka la yiraahdo amase dowlad goboleedka marka la yiraahdo dowladda Soomaaliya waa dowladda annaga dhan wada matasho oo Soomaaliya matasho adduunka loo yaqaano iska tabar yar raaxto waxay doonta ha ahaato annaga waxaa macnaa muhiimadda ay tahay إلا أنا ونوكل قرقاده إيه ونمدهن هذنا متكلمتو مايا فكرة هذا أيام ربنا فكرة هذا ديجا مركا مرولي بواحد تقف موادنا واحد دقي ستة أحمد مدوبي أو إيد الشيغان هي واحد دقي ستة الدولة ده أو حد يجر ما مركاسي كتل ما ميسونو سرالك هاين فدرالك مركا لابد نلعب إيد بتاعن تي قدام بيصير وشركة هذا كسماية كالسعودية وكالشيء إن ما مركا فدرالك حتى أصلا حبا وأقلين وحنا الشيء إذا ماذا يا برلمان كبتلان حتى نقالها الدنيا ay dhiibto in dowladda federaalka ay muqdisho ku haysato oo aan kismaayo la geyn marka eedayntu inta kaliya maaha dowladuna waxay ku eedanaysaa kismaayo inuu ka diidan yahay in federaalku uu xorriyadiisa ku tago waxa lagu haystaa axmed madoobe qudhiisa wafdiga dowladda inuu soo celiyay marka adigu yaa kula saxan yaana kula qaldan yaa marka dhinaca u fiirisnay oo dowladda hadda uu madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweynaha ka yahay waxaad moodaa niyahow inay cadaadis badan
iyo kaligiistalinimo iyo xoogaa dictatornimo iyo waxyaabo badan oo maaragtay aan macnaa loo baahnayn inay faraha kula jirto sidaa matalan waxaa loo baahnahay dowladdu inay meeshii awal ay joogtay hore uga sii wado dhinaca dib heshiisiinta iyo dhinaca horeynta dhulka iyo dhinaca macnaa markaasi is-afgaradka maamul goboleedyada iyo is-ixtiraamida waxaa moodaa dowladdani inay iyadoon xataa dhinacii dib heshiisiinta waxba ka qabanin dhinacii macnaa xoreynta dalka aysan waxba ka qabanin dhinacii xataa isfahankii maamuladii u dhexeeyey ayna waxba ka qabanin oo aada u jeeda dhinac kasta waxaad moodaa dowladdan niyahow inay xoogaa dib meeshii shalay la taagnaay ay uga dhacday hase ahaatee mar kastaba iyadaa dowlad noo ah tabaryaradeeda ha qabto wax kasta ha ahaato hadda odayaasha waxaa la rabay inay isfahmaan laakiin waxaa cad laakiin dowladdani inay maaragtay waxyaabo badan ka gaabisay dictatornimo xoogaana ay macnaa la soo baxday iyadoon tabarna lahayn waayahay wuu mahadsan yahay dhegeystayaasi weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii habeen wanaagsan yaa saxan yaana qaldan madaxda federaalka soomaaliya ee fadhigoodu muqdisho yahay iyo hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe qofka kale ayaa siinaya asalaamu calaykum walaa soo dhowo aragtidaada yaa saxan yaana qaldan maamulka federaalka soomaaliya ee fadhigoodu muqdisho yahay iyo hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe horta aad buu umahadsan tahay saxa marka waad ku salaamayaa marka ku xiga dowladda federaalka dhexe iyo maamulka jubbaland oo hogaaminayo madaxweyne axmed madoobe fikirkayga haddaan ka dhigto waxaa aaminsanahay inuu boqolkiiba boqol ku khaldan yahay madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed madoobe muxuu ku khaldan yahay wuxuu ku khaldan yahay baan kuu sheegayaa maalintii la doortay madaxda maanta dalka dowladda dhexe hogaaminaysa dalkao dhan baa runtii damcaasaan wada dareysanahay aduu looga hambaliyey hase ahaatee meeshii ugu horreysay ee booqashada ku tagto ra-iisul wasaaruhu aaday waxa ay ahayd oo dalka ka mid a jubbaland saa wada ogsoonahay axmed madoobe maalintaas khudbadihiisii ra-iisul wasaaraha kusoo dhaweeyey haddaan dib u dhegeysanaba ama saa ka heli doontid waxaa ka mid ahayd inuu yidhi ummadda soomaaliyeed waxaa moodaa iftiin muddo dhowr iyo 20 sano aan burbur kusoo jirnay kadib sana ayaa maanta u iftiimay baa la moodaa buu yidhi oo macnaha aanu muddo sugeynay ma garanaysaa haye taas macnaha waxay ka turjumaysaa axmed madoobe isagoo siyaasi ahaa oo runtii siyaasiyiinta iyo dad kale way uga dhawin doonaan dalka marka waxaa la moodaa taas inuu axmed madoobe markaa ogsoonaa waxyaabaha ay dowladdani qaban doonto ama sida ay u shaqeyn doonto qaabkaas waxaa kaloo jiray madaxweynaha hirshabelle maalintii maanta khudbadiisa runtii waa dhageystay hadallo dhaliil ah ka mid ahayd uu yidhi waxaa ka mid ahaa hadallada uu yidhi ikadi waare maalin ayaan ka hadli doonaa madaxdu maanta waa axmed madoobe keliya iyo dowladda federaalka bas weeye waare iyo xaaf iyo shariif xasan iyo cabdiweligaas gooni iidhig waxaad tiri dowladdu inay saxan tahay axmedna uu ku gardaran yahay dowladdu waxay samaysay faragelin aan lagu samayn karin cabdiweligaas dowladdu waxay samaysay faragelin aan lagu samayn karin shariif xasan dowladdu waxay samaysay faragelin aan lagu samayn karin galmudug taa waxaan kala jeedaa taliyo ciidan military oo aan lagala tashan cabdiweligaas dowladdu uma magacaabi karto puntland dowladduna uma magacaabi karto galmudug umana magacaabi karto shariif xasan iyadoo aan la tashan faras magaalaha ama caasimadaha maamul goboleedyada aan soo sheegay garowe dhuusamareeb iyo weliba baydhabo maxay tahay sababta dowladdu ay ugu magacawday marka iyagoo aanan awoodin saddexdaasi maamul ama afarta maamul kale inay taliyo ciidan u magacawdo maxaa keenay axmed madoobe keliya in la farageliyo iyadoo aan lagala tashan taliyo ciidan la dulgeeyo wafdi aynan dowladdu kala tashan axmed madoobe la geeyo gado waxaad og tahay dowladdu inaysan wafdi aysan u sheegin cabdiweligaas ma geyi karta garowe boosaasana ma geyi karto mana jirto taliyo ciidan ay dowladdu u magacaabi karto iyadoonan cabdiweligaas kala hadlin garowe maxay tahay jilaaca kismaayo ka jira aad buu umahadsantahay ujeedkaada og fahmay marka koowaad waxaa tiri dowladdu waxaana maamul goboleedyada kale ku samayn ayay waxay ku samaysay waxa la yidhaahdo axmed madoobe soo maaha saaxiibkay waxaan kuu sheegayaa dowladdu far gaaro oo ay ku eegtay ama farangelin gaaro oo ay ku eegtay jubbaland ma jirto maalintii dhawata aad arkaysay puntland baa waxaa laisku hayay deked bay ahayd taa micnaheedu maanta ma dhihi karnaa marka hirshabelle ama axmed madoobe meelaha ka mid ee dekedaha leh maxaa lagu qabsan waayey ama loo dhex dhibi waayey waa dhihi karnaa marka waxaan dhihi karaa anigu
iyadoo ay jirto macnaha isku dhacyo u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa Axmed Madoobe waxa uu u sii dhaqmay si kasii xag jirsan inuu macnaha awood aan lahayn inuu sheegtay baan aaminsanahay anigu okay waxaan rabaa dadka inaad u sheegto aniga maaha waxaan rabaa inaad dadka u sheegto baarlaman federaal ah oo Axmed Madoobe loo sheegin ayaa gada loo diray wafdi dowladda oo Axmed Madoobe loo sheegin ayaa gada loo diray wafdi dowladda oo Axmed Madoobe loo sheegin baa baar dheer loo diray wafdi dowladda oo Axmed Madoobe loo sheegin baa Kismaayo loo diray bal xusuusi dadka wafdi aanan Abdiwali Gaas loo sheegin oo xaaf loo sheegin oo ama Boosaaso loo diray ama Dhuusamareeb loo diray oo aan lagala tashan madaxda maamul goboleedyadaasi u sheeg dadka ku dhageysanaya su'aashan aad buu fahmay saaxiibo waxaan aaminsanahay anigu wafdiga la diray inta waa la socday dhamaantoodna wada daawaday wafdiga loo diray meelaha ay sheegaysid waxaan aaminsanahay xaqiiqduna ay tahay oo ay haddana tahay inay yihiin dadkii u dhashay deegaanadaas run ahaantii maanta hal xildhibaan kaba soo qaad oo kale uu soo gaari karaa meesha la Gaalkacyo meesha la Beledweyne meesha la Kismaayo ama wafdi ka mid ah dowladda run ahaantii anigu waxaan u arkaa dadkaasi inay yihiin dad aan dowladdu dirin balse ay yihiin wafdigii meesha u dhalatay cinaani ka xigay marka macnuhu ma haysid haba u dhashaanay waan ogahay baarlamanka hadiidin waxa ku jira reer Puntland baarlamanka ama wasiirada reer Puntland ku jira baarlamanka iyo dowladda Soomaaliya waxa ku jira reer Galmudug waxa ku jira reer Koonfur Galbeed baa ku jira reer Hirshabeelle ku jira marka maxay tahay kuwan aan booqashada aadaynin iyo kuwan booqashada aadaya dadka u sheeg anigoo kamid ah ku nool meesha loo Puntland waxaan soo gaaray wafdi ka socota dowladda ilaa ay 5 ka kooban waxaan ku soo dhaweynay magaalada ay macnaha ay yimaadeen waaciye waxa ay tagan meesha la yiraahdo Carmo si la socotay waxa malaynaa ka waraysid marka taama la mid tahay ma dhigi karnaa haddaan il gaar lagu eegay wayahay aad buu dhegeystaasi u mahadsan yahay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii habeen wanaagsan yaa gardaran yaa saxan yaa qaldan Axmed Madoobe iyo maamulka iyo hogaamka maamulka federaalka Soomaaliya qof kasta aragtidiisa ayuu nala wadaagayaa kaliya su'aal baynu ka weydiin doonaa dhegeysto qofka kale ayaa siinaya assalaamu calaykum عليكم السلام عبد الله بلوان صاحب سودو aragtidaada yaa saxan yaa qaldan maamulka federaalka iyo Axmed Madoobe hogaamiyaha Jubbaland waxaa saxan Axmed Madoobe waxaana qaldan maamulka federaalka Soomaaliya hay muxuu ku saxan yahay wuxuu ku saxan yahay Axmed Madoobe waa nin sheego maamul goboleeda waxaana Abdulle Gaas lagu dhaqmay ayaa lagu dhaqmay iyo waxaan Shariif Xasan lagu dhaqmay hay waxa kamida Abdulle Gaas wuxuu saraale keen uma soo magacaabi karta dowladda federaalka oo nimanka sheeganayo Puntland wuxuu Shariif Xasan raale keen Jubbaland lama soo magacaabi karo Koonfur Galbeed waayo Axmed Madoobe taageer laga dhigtay taas waxay ku tusaysaa farmaajo inuu dadka qabo gobolkan maamulkan Jubbaland sida uu ku qabsanayo inuu soo jeedaa malaas waxa ku tusaysaa Axmed Madoobe hadda waxaan ku dhiirigelinaa qof Allah la xildhibaan iyo wasiir hadduu wahaado Kismaayo loo soo diro inuu dil toogasho ku xukumo meeshan uu ku togto taasaan kula talinaa aniga waa maasan yahay wuxuu ahaa mid kamid ah dhageystayaasha caawa aragtida qofkana dhageysanayana xor ayuu u yahay annagu shaqo kuma lihin qofka fakarkiisa su'aal un baynu ka weydiin karnaa qof kasta oo isoo wacayna waa saxan yahay ma jirto qof qaldan maxaa yeelay fikradda dadweynaha waxaan aaminsanahay inay yihiin dhammaan fikrada loo wada baahan yahay qofka ku xiga ayaan siinaya assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله وكسلام وكان قاعد مد هلا مد أيان هودا كوسو مرينيا سودو وأركتي هذا أحمد مدوبي هجاميها جبلان يا فدرالكا الصومالية فرد جود مقدشية يا صحن يا نقلدن عبد الله هو واحد أسباب اللي كرم معها نمان كان معمول هذا الشيء يعني واحد ده هو قدومياري واحد صحن دولة فدرالكا وحنا كل صحن تهاي أنقول عيني يا هذا الكاس هي nimanka halka ku shiraaya halka waxa weeye ummadda Soomaaliyeed lu goynaya oo isku sheegaya inay yihiin waxa weeye leedaro ama isku sheegaya waxa weeye inay maamulaan maamul goboleedyo ama dad maamulaan Soomaaliyeed horta dib aad u eegay nin walba dib aad u xisaabiyo Abdiwali Axmed Madoobe Shariif Sakiin Haaf waxa weeye magaciisa kale waxa weeye waare Hirshabeelle waare
iyagoo dib isu xisaabiyeen waayahay marka axmed keliyaan usoo noqonaynaa qolooyinka kale afarta madaxweyne meel idhig maalinaan ka hadli doonaa axmed madoobe eeduu sheeganaya wuxuuna dowladda ku eedeynayaa faragelin aysan ku samayn karin afar madaxweyne in isaga lagu sameeyey ma kuu muuqataa wax aan lagu samayn karin cabdiweli gaas lagu samayn karin xaaf lagu samayn karin shariif xasan lagu samayn karin waare oo lagu sameeyey axmed madoobe ilan isagaa arrintaa ka cabanayeen cabdilaahow horta dee maamulada hadda soomaaliya ka jira isku xilli ma dhismin oo isku maaha power ama isku maaha ammaan ama waxyaaba ma kala duwan hadda puntland hadda isba barigno kaba soo qaadiyo axmed madoobe iyo cabdiweli axmed madoobe wuxuu joogaa ama haystaa meel waxaway dhibaatadu ku badan tahay oo al-shabaab haysato oo dhibaatooyin qabiiladii waxay dhexdoodii waxaway islaynayaan ilaa hadda oo nabad fiican ka jirin cabdiwelina wuxuu hadda waxaway ka taliyaa meel waxaweeye nabadu ay ka fiican tahay wax badan waxawey kismaayo marka taasaa dowladda laftigeeda keenaysa in farmaajo iyo dowladdiisu ay farageliyaan ama caawinaad ha ka noqoto ama ka noqoto waxaweeye si kalaba inay waxaweeye farageliyaan oo is yiraahdaan ummadda soomaaliyeed ee halkaa ku dhiban wax u qabta axmed madoobe waxaweye kismaayo kama qaadi karo 5 kilomitr dibadda ugama bixi karo al-shabaab baa jooga sidoo markaa umma Soomaali maamulay waxa maamula oo oranaya waxbay dadka ku qabanaya maamulaya waxa maamuli karo waa beenti weeye shirkaana waxa weeye 2 milyan waa lagu qiyaasaya hadda inay ku baxayso waxa weeye oo waxa weeye lagu cunaayo oo ummadda waxa weeye Soomaalida hantideedii waa lagu cunaya halkaas oo tikada waxa weeye laga soo qaadayo cid kalena laga soo qaadi maayo ummadda Soomaali hantideedii baa halka lagu baabiinaya mid kastana waa saas waa shirkii saddexaad baan u maleynaya oo inta Cabdullaahi ku baxdo lacag maalmo ma tasan ku jireena marka ummadda Soomaaliya waa baabaaday waxa weeye afar nin baa maalmo waxa weeye ka tuuraya hadda dhibaatada jirta waxa weeye kii mucaaradka ahaa oo waxa weeye dowladda mucaarad ku ahaa hadda waxa ku wareegay oo mucaarad ka samaystay maamul goboleedyada sidii ummadda dowladda Soomaaliya loo jiido ummadda Soomaaliya loo jiido waa in 5 sano dambe 6 sano dib ugu noqono waxa weeye dowladlaani waxa weeye dhibaato dib ugu noqono waayahay adigu ma aragtaa in wafdi aan loo diri karin Boosaaso Qardho iyo waliba Garowe oo aan loo diri karin Baydhabo Bay iyo Bakool oo dhan aan loo diri karin Galmudug Dhuusamareeb ama Cadaada aan loo diri karin ee loo dirayo Kismaayo loo dirayo Gado loo dirayo Baardheere miyaysan taa la dhihi karin dowladdu waxa ay ku samaynayso Axmed Madoobe waa ay kaga duwan yihiin inta ay ku samayn karto afarta kale saaxiibadii lama dhihi karo waxaan loo dhihi karaa Cabdilaahi adaa waxa weeye iga badiyo wax badan oo journalist ah oo wax badan soo indheeya ama soo akhriya Kismaayo magaalada Kismaayo u maleymaayo magaalo kale oo ka baxsan in maamulka waxa weeye Axmed Madoobe uu ka taliyo badi waxa weeye gobolada waxa ka taliya ama qabaayil ha noqoto ama al-shabaab ha noqoto ama waxa noqoto waxa weeye kooxo kale ilaa ma xuduud Kenya laga gaaro Axmed Madoobe dhulka ma mari karo ilaa uu diyaar raaco taa waa fahmay Kismaayo marka waa caasimadiisii hadduusan xitaa haysan dhulka kale Kismaayo taliya loo magacaabay taliya aan loo magacaabin Garowe loo magacaabi karin Baydhabo loo magacaabi karin Dhuusamareeb ayaa Kismaayo loo magacaabay iyadoo aan lagala tashan taana ka war Cabdilaahi sababta sida halka uu dhaway lagala tashan kaba soo qaybay lagala tashan waa la soo diri karaa waxa weeye taliye haddii awla muuqato dowladda Soomaaliyeed ama dadka halka degan qof wax u qaban kara in loo diro waayo lama eegan karo in maalin walba dad Soomaaliyeed ama waxa weeye shacab Soomaaliyeed in al-shabaab iyo waxa weeye Kenya oo Soomaaliya cadow ku ah iyo waxa weeye kooxo kale ay ku dul dagaalamaan hadda gobolada hadda hay'aduhu ma tagaan dowladda Soomaaliya macaawin ma geyn karto waxa weeye cid kale ma tegi karto adduunka oo dhan bay ka go'aan waxay ku socdaan 25 sano ilaa 30 sano ay ku socdaan dhulkaas oo hadda inay wali waxa weeye wadanka intiisa kale ay ka hooseeyaan si kastaba haddii caafimaad noqoto haddii waxa weeye waxbarasho noqoto haddii waxa weeye gargaar noqoto ilaahay baa kugu dhaashay marka ninka madaxweyne sheeganaya wuxuu rabaa inuu is hortaago dadka waxa weeye walaalaha Soomaaliyeed ee loo damqanayo qof walba Soomaali damqanayo qofka damiir la u damqanayo inuu ka xidho oo waxa weeye ay waxba horumar aan dhulka gaarin buu rabaa Axmed waxa kaliya waxa weeye fikradiisa isku soo ururtay inuu Kismaayo lacagta ka urursado sida waxa weeye Cabdiweli waxa weeye maamulkiisu
ummadda soomaaliyeedna waxaa weeye maalintii ka tagaan iyagoo shidadooda buuxaan ay ka tagaan oo nin walba baasabor intuu qaato kii Kenya tagaaya iyo kii Mareykan ku noqonaya kii meel kale tagaaya exactly same ha ku quus qaateen xasan sheekh sideed oo maqan hadda soo noqday mid walba saas idinka tagayaa ummadda Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay waxa weeye inay inagu tashano oo waxa weeye dawlad kasta oo timaata ina ka hor imaadna ma inay dawladda waxa weeye intan wanaajino aad buu mahadsan yahay wuxuu ahaa mid kamid ah dhageystayaasha caawa aragtidooda dhiibanaya aaminsan Axmed Madoobe inuu gardaran yahay qaladaadka Axmed Madoobena uu iftiimiyo waa mahadsan yahay qof kastana wuxuu xor u yahay aragtidiisa inuu nala wadaago ma jirto dhageysta Soomaaliyeed oo na dhageysta oo aan aaminsanahay haba yaraateen fikradiisu ay qaldan tahay qof kasta fikradiisu wuxuu xaq u leeyahay inuu nala wadaago fikirkiisa uu cabiro aragtidiisa uu soo bandhigo annaguna aynu telefoonka qofka markaynu ka qabanno eegno qofka aragtidiisa isagoo waliba xorow ah ma xuma haddii aad la dhageysanayso oo doonayso inaad doodaheena la socoto South African aadan joogin waxaad iga dhageysan kartaa channelka YouTube-ka la yiraahdo Saadaal Production Saadaal Production hadda wuxuu ku dul qoran yahay Axmed Madoobe haddaad iga dhageysanayso weeye qaybta Facebook live Saadaal Production ku biir Saadaal Production subscribe leh oo halka ka mid noqo si aad barnaamijyada u dhageysato maxaa yeelay live kuma ku dhamaado waa laga tirtirayaa dhinaca Facebook YouTube channelkaasi Saadaal Production ayaad keeni kartaa Saadaal Production magaca Axmed Madoobe ku dul qoran yahay hadda fadlan ku biir qofka ku xiga ayaan siinayaa assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وكاك هذا مد تعال مدن هودا كوسو مرنية أحمد مدوبي يا فدرالك صومالية يا صحنية أنا قلدن فدرالك صحن أحمد مدوبي وانين أو مصيبة كلا أو أنا نقرر إنه شقيه أحمد مدوبي سيد أكتاي وانين صومالي لماذا اللغة كل جن أحمد مدوبي فكرة وحوة تابري Norway ay riix jirtay oo Kenya iyo ciidamo yar oo qolada Axmed Madoobe oo meelaha lagu soo tababaray in lagu qabto Kismaayo kadibna lagu daro Kenya meeshii kaga dhagtay meeshaasna waa socodso hada Norway arrintaas inay soconayeen ogaatay xamar u soo wareegtay waa watan xamar joogtaba marka Axmed Madoobe Kismaayo kama taliyo wuxuu joogaa dekada iyo airportka oo Kismaayo waxa ku wardiyay ciidamada Kenyaatiga mid kale Axmed Madoobe ciidan meeshi oo waxa dhahday dawladda waxay u dirtay taliyaal in loo diro qasaba markay ciidan ma haysay Axmed Madoobe ciidan oo adiga aadan leen adiga ka amar qaadamayaan ciidanka dawladda meesha geysatay dawladda ka amar qaadanayaan waa in sakuurad oo dadka la hubiyaa wax lagu qabanayo Axmed Madoobe qabiilkiisa haday wax difaaci karaan Cabdi Ilay difaacayna 40 kun oo ciidan haysana waa loo imaaday madaxweynahoodii dhagta laga qabtay waa laga qaatay habar gidir ciidid 52 wadana ka soo doontay waa difaacday mursada caldheer ma laga hadli karo wacaas le koob ku dukada ma laga hadli karo marka nin Axmed Madoobe waxa la Itoobiadiisa iska adeeyo waqti badan naga rumin laakiin wuxuu eed ka sheeganayaa in dawladda Soomaaliya ay dhulka uu isagoo madaxweyne ka yahay inta badan dhul uusan tagi karin ayuu Axmed aaminsan yahay inuu madaxweyne ka yahay marka miyay dawladdu ku saxan tahay in wafdi loo diro gado in loo diro baar dheere xildhibaano ay halkaas ay tagaan muuqaal laga soo duubo shacabkii la kulmo iyadoo Axmed la wargelin ها وأبو قسمتها سببته سيد أكتاي دارا كفكري شعبكي أو جيدا كرسارن جدا يقرباري ونكان دبي يأرسلوا يوجوي مركا تذكر أول شماشة يقفت تمير له الصومالي وأبو قسمتها ماشي ورمت بركي مدحويني هنكو مدحوينها الشجرة هاي الله هم قدر سواء كان إمارات كوكقرابنا إثيوبيا وطن أمين عامر ونص ورقل دي اللي حتى إثيوبيا قاعد بسدين نيوانك الصومالي مرة أنا قاعد بنا استان نقطك حتى وقت دي وكمان والباب كوتاجن مركن ننفي عن معنا دي وصلنا هناك الصومالي إلى وقت بدن كل من ما رجع من ذو وقت يسواد ماضي ماليس قحوتها سجاد جرمال كي عدد قحوتها اللي قبلها مركا فرماج في سهور هذه جرمال كاس كدي بس أصلا كله طلعي aad buu mahadsan yahay wuxuu ka mid yahay dhageystayaasha aragtidooda caawi dhibanaya qof kasta oo na dhageysanayna wuxuu xor u yahay inuu aragtidiisa dhibto iyadoo aysan jirin haba yaraatee qof aragtidiisa lagu caburinayo qof kasta oo na dhageysanayana waa saxan yahay qof walba oo na dhageysanayana aragtidiisa xor buu yahay yaa saxan yaana qaldan maamulka federaalka Soomaaliya oo kala jeedo dawladda federaalka iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe wuxuu sheeganayaa in dawladdu gardarro ay ku haysato
dowladduna waxay leedahay axmed madoobe maamulkiisu ma aha mid kaafin kara dhulka deegaanka uu gacanta ku hay aan u gudbo qofka kale asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal soo dhawo aragtidaada yaa kula saxan yaana kula qaldan maamulka federaalka iyo hogaamiyaha jubbaland عبد الله waa ku salaamay adiga iyo dhammaan dadka maaragtay ku dhageysanaya iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan niyow aniga arrintan isma saara garto ilaahay taqaana arrin baa maaragtay na weydiisay si cadaalada u galayna aniga fikirkayga iyo dad badan waxaa nala qaldan dowladda federaalka وانا صوبينيا haddii waaridku ay qaldamaan cabdullaahi adaan ku weydiinaya ummadda soomaalida waa weydiinaya ilmuhu maaragtay maxaa laga sugayaa ma inay saxmaan mase inay ayagana qaldamaan adaan ku daynayaa jawaabta dowladdii soomaaliya ayada yacni sanad labada sano ee ku dhawaadka ay jirto qalad usbuuc kasta qalad ay lugaha kula jirtaa axmed madoobe dowladda federaalka waa ka gardarantay maanta haddii dowladda federaalka ee maamul goboleedyada kale oo dhan ay wax u magacaabi lahayd axmed madoobe qalad baan saari lahayd gartu ilaahay ay taqaana qalad baan saari lahayd axmed madoobe qaldan yaan dhihinay laakiin afarta maamul goboleedyada kale dowladdu waxba uma magacaawdo waxna uma dirto maalin walba axmed madoobe in dhuunta loogu jiro oo wax loo diro hadda waa iska caddahay baashaan waa shaati looma soo gelin madaxweynaha xaafadiisa iyo axmedoobe unbaa meesha isku haysta mudaaharaadyada socda ciidamada lasoo dirayo hubka lasoo dirayo waxaasoo dhan dowladda ayaa ku qaldan axmed madoobe aniga waa 100% waa saxiix waxa gobolka ka dhacaya anigu ma lihi axmedoobe maamul goboleedyadu la mid yahay waa bini aadam waa qaldami kara laakiin dowladdii haddii 24/7 ay qalad ku jirto anigu axmedoobe waxaan qalad ku saaro ma hayo maanta marka la fiirsho arrimahan dowladda iyo axmed madoobe isku haystaan axmed madoobe baa kaga saxan mid soomaalidu waa inay ogaataa axmed madoobe qalbi dhagaxna ma gadan dekadihiina ma gadan maalin walbana waxa maaragtay dowladda soomaaliya axmed madoobe waxaan ba aragnaa meel kasta wuxuu leeyahay war soomaalinimo aan raadino war aan cadow annaga la dagaalno war yaana ciidamo shisheeye isku halaynin ayagooba ku jira oo dagaalka hawshii wuu wadaa ma aragteen ummadda soomaaliyeed yaa ii sheegi kara one single day oo dowladda soomaaliya intay weerar qaad ay meel ka kicisay inay maalin walba inay gadaal usoo socoto oo maaragtay dowladdii iyo maaragtay hadda ardas ka hadlana waxaad leedahay baalka inaad ugu dabinaa maaragtay diidaya laakiin dowladdii nimankii la rabay in wixii loo igmaday waa ku fashilantay ma la dagaalanto nimanka axmedoobe oo la dagaalamayo maamul goboleedka kale oo dhan way la dagaalamaan dowladda laakiin lama dagaalanto bilcagsi waxaan dhihi karnaa rag badan oo kamid a dowladdii kusoo dartay waxa la qarinaya ruuba waa kamid a sakariya kamid a wax badan adduunkii dhammaan galbeed badanaa iskaga baxa dalkii xilligii xasan sheekh dowladdii gadaal bay usii socotaa marka gartu ilaahay taqaana axmedoobe waa laga qaldan yahay waana arrimo caadifadaysan dictatoriyada iyo dowladda wadda aniga kaliya maaragtay talinaya waxaasna ma shaqaynayso waad ogsoontahay ummadda soomaaliyeed waa ogsoontahay xasan sheekh maamul goboleedyada wuxuu kusoo dhisay oo kula waday wax la yidhaahdo wada ogol bulfeeri kelmadaas wada ogol muku haynaa khayre farmaajo maanta wada ogol anaa iri iga daba sacbiya intay ka shaqaysaa 2018 cabdullah adaan ku weydiiye haye marka waa qaldan yihiin dowladda federaalka qaldan ha isi saxdo markii ayaga isi saxaan ka bacdi axmed madoobe ha eedaya waa og asiga ruuxiisu qaladaad waa leeyahay gobolka wuu ku habsaday qabaa'ilo badana ku duldan ummad badana dhib ku jirta laakiin cadaaladdu waa inay hoos ka soo bilaabataa aad buu mahadsan yahay waxa uu qayb ka yahay dhegeystayaasha aragtidooda dhiibanaya wuxuuna dhegeystuhu cod ka siiyey axmed madoobe inuu saxan yahay laga qaldan yahay mid ka mid a wafdiga axmed madoobe oo hadda fariin igaga soo diray magaalada kismaayo xarunta maamulka jubbaland wuxuu yiri fadlan waxaan ka codsanayaa adigoo cadaaladda fiirinaya inaad ummadda u sheegto wixii ka dhacay shirkii Brussels oo dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada Axmed wixii lagu sameeyay sheeg ayuu yiri si ay ummaduna u ogaadaan runta adigoo waliba aadan qarinayn wixii aad kala socoto haddaba su'aashaasi jawaabteeda ayaan rabaa markii inaan guda galo maxaa lagu sameeyay Axmed Madoobe markii la joogay shirka Brussels waad ogeydeen Belgium shirkii ka dhacayay madaxda maamul goboleedyada oo dhan waa la diiwaan geliyay bal fiiriye aad ii dhageysta Axmed Madoobe
waxa ay isku wafdi ahaayeen cabdiweligaas cabdiweligaas gaari ayaa looga doonay garoonka oo waxaa la yidhi wafdi ahaan ha loo soo kaxeeyo dowladdu federaalka waxa ay gaariga darawalkii loo diray axmed ninka la yidhahdo cabdiweligaas lagu yiri ka soo tag axmed madoobe sheekadan waa sheeko yaab leh oo dunidu ay la yaabtay isagana amakaa ku beertay marka wafdigan ayaan rabaa inaan uga jawaabo waa sax dowladda soomaaliya darawalkii soo kaxayn lahaa wafdi uu axmed madoobe ku jiray cabdiweligaas ku jiray waxaa lagu yiri markii garoonka Brussels ay tageen isaga iyo axmed madoobe isaga iyo cabdiweligaas waxaa lagu yiri darawalkii keeni lahaa hotelka wafdiga dowladda loogu talagalay waxay dowladda Soomaaliya ku amartay axmed madoobe inay ka soo tago darawalka oo soo wado cabdiweligaas axmed madoobe iyo cabdiweligaas isku wafdi ahaayeen azumaada axmed madoobe iyo cabdiweligaas waa isku kursi oo ciidamo dhihi karto waa laba nin oo kala duwan midi Puntland buu hogaamiyay midna Jubbaland marka ninkii odaga ahaa garoonka isaga iyo cabdiweligaas gacanta isqabsaday waxay yiraahdeen kale ma tagayno laakiin darawalkii ayaa lagu yiri waxaas waxba kama jiraan cabdiweligaas soo wato markaa buu axmed madoobe wuxuu yiri ma lahan aniga garoonka igaga tag adiga raac darawalka amarka dowladda Soomaaliya darawalka uu oofinayo cabdiweligaas aan soo kaxeeyay axmed madoobe garoonka looga soo tagay garoonkii isagoo taagan jaaliyadda Jubbaland ayaa gaari ku soo qaaday ninkii dhanaa ee wafdiga dowladda ka mid ahaa garoonka looga soo tagay taksirihii waxaa la yidhi heba soo qaadin gabadhaas hataa gabar ajnabi ahayd oo loo soo diray oo darawal ahayd oo wafdiga loogu talagalay oo Belgium u xil saartay inay wafdiga Soomaalida ay soo kaxeeyaan ninkii odaga ahaa garoonka looga soo tagay warkaas waa xaqiiqo waxaa loo hayaa caddayn wafdiga Kismaayo wafdiga la socday axmed madoobe oo hadda Kismaayiga la soo xiriirayana waxaan leeyahay warkaas waa war cad annagana aan ka warqabno inkastoo dooda aan rabo caawa aynan ku salaysnayn wixii Brussels ka dhacay ninkii odaga ahaa hotel gooniyo degay warbaahintii waa la maran habaabiyay marka waxaa lagu sameeyay axmed madoobe waxaa la yiri uu ka xanaaqay dowladda hotel gooniyo degay lama sheegin marka sababta hotelka goonida u degay haddaba hotelka goonida sababta u degay waxay tahay garoonkii baa looga soo tagay wajhi xumaa meeshaasi ka dhacday axmed madoobena sidaas ayuu garoonka dad jaaliyada soo kaxeeyay hotelka u degay sawirada inta badan laga faafiyay shirkaasi intuu socdana axmed madoobe shirku ka xanaaqay iyo dowladdu sidaa yiri iyo ma ahayn garoonkaas ku salaysnaa sida ay ii sheegayaan wariyaal ku sugnaa shirka oo intuu shirka socdayna la socday midna ula socda ayaa annaga noo xaqiijiyay oo aynu hayno proof cad isaga afkiisana uu ku sheegay marka waa mahadsan yihiin xubnaha maamulka Jubbaland ee caawa toos igaga dhageysanaya magaalada Kismaayo xarunta maamulka Jubbaland mahadsanidin shacabka diiwaangelinta waa muhiim waxaan horta idin sheegayaa fikrad walba oo dadweynaha laga ururiyo qaar baa tusaale u qaata madaxda maamul goboleedyada waanu gaarsiinaa wayna ka warqabaan ninkan axmed madoobe la yiraahdo runtii dhowr siyaabood ayaa lagu haystaa war cad ayaa fiican siyaabta koowaad ee lagu haysto ninkan waxaa ka mid ah in maamulka federaalka uu u noqdo gacan iyo in uu kursiga waayo ayaa isbarbartaala inuu maamulka federaalka u noqdo sida Hirshabeelle iyo Galmudug waxaa la doonayaa axmed madoobe in laga dhigo sida Hirshabeelle iyo Galmudug xafiisna Muqdisho looga sameeyo mar walba uu dowladda gacanta ugu jiro sida axmed ducaale geelle xaaf dowladda Soomaaliya gacanta ugu jira waare madaxweynaha Hirshabeelle dowladda Soomaaliya gacanta ugu jira Shariif Xasan hoosa laga maamula labada nin ee aan wali dowladda gacanta ugu jirin waa maamulka hoggaanka Jubbaland iyo hoggaanka Puntland hoggaanka horta Puntland inta lagu sameeyo Jubbaland looma sameeyo maxaa yeelay ogaada fiir meeshan dadka degan Puntland waa dad israacsan nin waliba oo dhiban markaad aragtaan dadka uu hogaaminayo tafaraaro ka dhaxeeya ayuu ku dhibaatoonaya Puntland Jubbaland la mid ma aha waxaan rabaa dadku inay aad wax u fahmaan intaanu ognahay ayaanu la wadaagnaa dadka Puntland Jubbaland la mid ma aha maxaa yeelay Puntland waxaa degan qabaa'ilo kooban baa degan oo hal dhinac ah laakiin Jubbaland Soomaali weyn degan waxay la mid tahay ama ku dhowdahay Muqdisho magaalada kale ama dhulka gobolka Banaadir gobolka kale ee la dhihi karo federal dad macna collection degan waa Jubbaland hawiye iyo daarood baa degan jilaac iyo jareer degan laakiin Puntland ma degan Puntland waxa degan hal qayb oo kaliya
jubbaland marka dhibaatada haysata ninkan axmed madoobe la yidhaahdo waxay tahay shanta soomaaliya ayaa dhulkaasi degan hawiya u badan waad ogtihiin qayb ka mid a xataa reer puntlandaa dega oo majeerteenaa dega ogahdeenaa dega mareexaanaa dega hawiya qaybihiisa kala duwan baa dega marka ninkan culayska haysta maamulada kale waa ka daranyahay hadda ninka la yidhahdo galmudug waxaa degan waa dad kooban hiraab oo habargidir iyo wacaysle duduble iyo murusade iyo mareexaan ayaa degan galmudug laakiin jubbaland oo kale ma jirto jubbaland culayska ay haysato iyo culayska dadka degan wax caadiya ma aha marka odaga horta culayskaasaa haysta hadduu lamid ahaan lahaa sidii axmed ninka la yidhahdo cabdiweligaas oo kale waad ogtihiin cabdiweligaas qardho garowe boosaaso haddii laysku ka keeno yaa degan waa hal qayb oo keliya marka ninkan horta culayskaasaa haysta aragtida shacabkana dhammaantood waxay fiirinayaan inta hadda muuqata waxaan horta ognahay ma jirto taliyo ciidan oo loo magacaabay puntland aad ii fahma taliyo ciidan oo puntland loo magacaabay ma jirto ciidamo dowladda soomaaliya ka tirsan oo lagu beeray puntland gudaheedana ma jirto ii fahma ciidamo soomaali ama dowladda federaalka ay leedahay oo puntland lagu dhex beeray ma jiro ciidamo dowladda federaalka soomaaliya ay leedahay maxaa loogu beeray markaa jubbaland maxay tahay militariga soomaaliya maxaa u diiday puntland maxaase u ogolaaday jubbaland federaalku miyuusan xakumin gobolada kale maxay tahay sababta jubbaland keliya loogu beerayo ciidanka militariga taliyaha ciidanka militariga la sameynaya puntlandna looma samayn karo galmudugna ma loo samayn karo koonfur galbeedna ma loo samayn karo laakiin jubbalandna loo samayn karaa waxyaabaa inta badan axmed madoobe dhibaya muuqata ayaa taas qayb ka ah muqdisho kusoo hartay runtii reer muqdisho waxaa jiri doona fariimo badanaa maanta isoo gaaray fariimaha ugu culus oo maanta isoo gaaray muqdisho waxaa ka mid a allaha u naxariistee hooyada dhashay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waa loo tacsiyeeyey dugteedii waa laga qayb galay caruur yaryar oo oo qaraxu ku dilay dugsi qur-aanna madaxda qaranka soomaaliya cid u tacsiyeysay ma laha marka mar walba fariintaas waa lagu soo celceliyey waxaan leeyahay reer muqdisho wakti iyo barnaamijaan ka diyaarina haddaan idhaahdo maxaa loogu tacsiyey waaye mana loo tacsiyeynayo mana loo tacsiyen doono marka waktiga halkaas kulumaya annagu ma haysano marka wax la yidhaahdo hadal dhexdhexaad oo halkaas keeni karna ma jirto dowladdu runtay noo sheegtay reer muqdisho qofka u tacsiyeynayo waa taliyaha ciidanka booliska ama guddoomiyaha gobolka ama u qaybsanaha dhinaca arrimaha bini'aadanimada ururada bulshada unbaa u tacsiyey kara reer muqdisho madax qaran oo idiin tacsiyeynayso ma jirto ama arday dugsi ha idinka dhimato ama hooyo uur leh ha idinka dhimato ama jid ha la idinka xiro ama kun qofood u dhinta annagu kuma wareerayno maxaa yeele maalin walba bulshada waxay tidhaahda keliya ma sii dayn karo hooyo waa hooyo hooyada caruurteeda ay ku dhinteen qaraxan hadda dugsiga qur-aanka ka dhacay waxaa ka qiimo badan hooyada uu guddoomiyaha baarlamaanka dhashaa ka qiimo badan maxaa yeelay hooyada guddoomiyaha baarlamaanka dhasha aaskeedii waxaa ka qayb galaya madaxda qaranka hooyada miskiinka ee muqdisho ku dhimatana maalin walba kama sheekayn karo maxaa yeelay dowladdu runtay sheegtay dowladdu waxay tiri madaxda qaranka maba ka hadlaynaba ma u tacsiyeynayno 500 ha ka dhimato ama 1000 qof ha ka dhimato ama haaf ha ka dhimato idin kale waaye marka waxba marka hay weydiinina su'aalahaasna inta badan anaga markaan dowladda la xiriirno taasana lagu yiraahdo marka maalin walba qaybta shacabka ma gudbi karo dadka in soo wacay badankoodu waxaad moodaa caawa in arrintu ay barbartan tahay maxaa yeelay axmed madoobe iyo dowladdii federaalka qaarna way taageerayaan qaarna way kasoo horjeedaan axmed qalad ma leeyahay marka muxuuse kaga duwan yahay qaladaadka maamulka kale ninkan ciidamada uu haysto awood uma laha dhulka ayna ee al-shabaab ay ka safeeyaan maxaa yeelay dhulkiisu waa ka duwan yahay dhulka kale ee puntland waa ka duwan yahay dhulka galmudug waa ka duwan yahay ninkan dhul waxa uu haystaa inta badan ayna suurtagal ahayn iska daa isaga federaalka kama bixi karo argixisada meesha kama tirtiri karo marka ninkan dhibaatadaas haysata horta culays badanna maamulka gudihiisa ka haysta waad ogtihiin isaguna waa nin iska ciidana ninka markuu ciidan yahayna waad ogtihiin waa nin mayal adag xukun military uu jecel yahay axmed madoobe hadda isagaa dadka wuxuu leeyahay dictatornimada oo ku tilmaamaya federaalka tiisa marka la barbar dhigo tiisa culays badan marka annaguna taas waan ognahay laakiin dooda kuma saabsan yaa saxan yaana qaldan shacabka taageera ayay sii karayaan reer muqdisho waxaan idin leeyahay maalin walba maxaana lagu tacsiyo waaya haddaad dhahaysaan cid idin tacsiyeynayso ma jirto
muqdisho inta ku dhimata madaxda qaranka qof idiin tacsiyeynayo malaha wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya madaxda qaranka xataa haddii kun qofood idiin dhimato telefishinka qaranka ma la idiin daminayo marka masiiba ay dhacdo dalka waxaa lagu yaqaanaa telefishinka qaranka oo kale waa tii loo saaro astaan oo dadka lagu yidhaahdo maanta waa maalin murugale maalin mugdiya waaye maba laydin dhahaya ka cabsan ama dugso qur-aan ku dhinta ama jid ku dhinta dowladda soomaaliya hadda diyaar uma aha inay u tacsiyeyso shacabka muqdisho marka reer muqdisho waqti unbaa halkaa ku lumaya maahe barnaamij haddaan waqti geliyo oon dhaho qaraxaasi maxaa looga tacsiye waaye maalin walba marka ma waxaan taagnaynaynaa maxaa looga tacsiye waaye ile maba loo tacsiyeynaye mana loo tacsiyen doonee maxay tahay sababta marka maalin walba lagu soo celcelinayo waa may laba dhacdo ayaan xasuustaa oo aniga markaan baarayay qaarkood aniga iga yaabiyey telefishinka dowladda federaalka soomaaliya waagii hore markii dhibaata dhacdo waxaa la arki jiray khudbadaha madaxweynaha ama khudbadaha mas-uuliyiinta qaranka kuwooda ugu sarreeya maalin uun inay ka hadli jireen laakiin waxaan xasuustaa iyada oo isbitaalka banaadir iyo guud ahaanba isbitaalada muqdisho ay la leecayaan dhaawacyo ayaa nin dhakhtara iyo nin saaxiibkee wariya waxay ku geeriyoodeen dalka dibaddiisa maalintaas fiiriya maalintaas isbitaalada dhan waa buuxeen dhimashii dhaawacba madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo stadiumku wuxuu tegay stuudiyaha telefishinka iyo raadiyaha halkaasuu ka tacsiyey uu tacsiyey dhakhtarka iyo ninkii wariyaha dhintay reer muqdisho marka maalintaas baaritaanka aan sameynayna waxaana lagu yiri adeerayaalow ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha reer muqdisho markay dhintaan ma u tacsiyeynayaan waa mamnuuc mana la arki doono arrin kale waxaa jirta oo dadka intiisa badan axmed madoobena uu hadda sheegay dad kale ayna weydiinayaan waxay tahay meesha ah dowladdu maxay tahay sababta dadka dilka toogashaa marka loogu xukumo maxaa loo dilinayaa argagixisadu marka ay qarax geysato maxkamadda militarigana ay xukunto maxaa loo toogan laayahay su-aashaas way soo noqotay axmed madoobe aa sheegay annaga saxaafaddana horaan u sheegnay haddana way cad tahay madaxda qaranka soomaaliya waxay noo sheegeen beesha caalamka inay ku cadaadisay madaxweynaha soomaaliya iyo xukuumaddiisaba qofkii qof dila in aan la tooga karin qofkii qarax geysta la qabto xabsi daa'im ma la tooganayo waxaan lay sheegay mana dhici doonto inta uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu yahay qof haddii qarax lagu qabto ma la tooga doono qof hadduu qof dilo oo ay ku caddaato ama uu qirto ma la tooganaayo xabsi daa'ina loogu bedelay beesha caalamka codsatay baasaboorada madaxda qaranka ee wataanna khataray ku tahay runtu marka waa intaas baasaboorka madaxda qaranka ay wataan dambilaha markii la toogto barrito dhibay la kulmi karaan madaxda qaranka maxaa yeelay berri markay talada dalka dhiibaan soomaaliya ma joogaya waa kaa tegayaan ninkii maraykanka aadana dhibaataa sugaysa ninkii norway u laabtana dhibaataa sugaysa marka dambilaha falka geysta 2017 bishii labaad ilaa iyo 2018 bisha sagaalaad qof la toogtay haba yaraatee ma jirto laakiin kismaayo waa lagu toogtay maamulka jubbaland way toogteen inta ay dowladda federaalka xukunto ma la toogan mana la toogan doono 4 sano ilaa uu ka dhamaystirayo madaxweynaha marka maalin kale su-aashaas aysa soo laaban aan siiyo marka dhegeysta assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلوان أدبك والسلام على هذه دقيستيا شادبة وكان قادم من تعلم هذا كوسو مرنيا سودو أركتي هذا فدرالك الصومالية إيو هجميها جبلان يا كلا قلتن يا كلا صح والله أدنى مركلا كاجم هتعلنا يا برنامج كاجم مرتقادي أرنك ما أنت تاجن وحاكو صحن نحن مدوي وحنا كو قلتن فدرالك sababta haddii aan u guda galo waxa weeyaan federaalka horta maamulka kismaayo hortiisa ayuu dhisnaa horta inta aanan sababta aan sheegin waxaan rabaa inaan idhaahdo labada maamulba kan federaalka iyo kan axmed madow labada dhaliil waaweyn bay leeyihiin inta badanna adiga ayaaba ka shaqarisay hase yeeshee tan maanta taagan federaalka ayaa ku gardaran dhowr maamul goboleedyo ayaa wadanka ka jiro farmaajo iyo khayre khaasatan farmaajo faragelin aada u ballaaran ayuu ku hayaa kismaayo waxaana weeyaan kismaayona xoogaa taariikh ahaan axmed madoobe iyo halgan buu usoo maray dad baa ku dhintay dad baa kusoo haligmay kismaayo waxa sida ahayd nidaamkeeda waa naqaanaa marka ummadda soomaaliyeed maanta hadda
xogaaba cariiri ha yara jiro oo sidaad sheegaysaba axmedoobe xogaa sidii muqdisho ay tahaba free speechka dadkii warbaahinada iyo ciriiri wuu jiraa dhaliilooyin kulley labada xukunba xasan sheekh markii uu tagay ayaa ugu dambeysay muqdisho oo si dimuqraadiyadda ay warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa localkaaba ahba ay uga howlgalaan muqdisho madaxweyne warbaahinta soo hor fadhiistana waxaa noogu dambeeyey xasan sheekh kismaayona waa lamid ciriiri wuu jiraa xagga warbaahinta laakiin farmaajo maamulada kale sida adigaba u sheegtay fargelin uusan ku haynin ayuu ku hayaa aniga shaksiyanna waxaan dareensanahay in ay uu maaragtay eex qabiil ay jirto xoogaa dad ishirtinayn halka ay jirto hase yeeshee axmedoobe qabiilada wuu saxay wuu walaaleeyey dadku wuu mideeyey wanaag iyo isku wad ayuu ku wada muddo aada u dheer laakiin farmaajo military fargelin military xildhibaano xagga siyaasad wax noocaas ayuu horta ayuu maamulkaas ku galay ayuu ku hayaa puntland kama dhacdo isheeg baydhabo kama dhacdo iyo kuwa kaloo horaansi jiro hataa somaliland oo inkastoo magacyada gooni iyo wax kale ay aaminsan tahay marka tan kaloo aan ku daray taa waxa weeye walaale maamulka kismaayo maamulka farmaajo wuu ka horreeyey yani federaalka wuu ka horreeyey maligi laakiin farmaajo wuu ka horreeyey maamulka kismaayo madaxweyneyaashii ka horreeyey nidaam iyo si ayay la dhaqan hayeen ama ay ku wadeen ay ku dardargelin hayeen waddankan 40 sano ku dhawaad ayuu dagaal ku jiray uu dadka kala cararsan yahay uu kala fiigsan yahay kala shakisan yahay farmaajo kaliya talinimada dadka isuguma soo dhaweyn karo dadku waxaa loo baahan yahay nin walbaba in meeshiisa loogu tago dhegtana loo raariciyo wax weyn oo dhibaatana ma jirto soomaalida meesha degan waa dad nabad qabo oo maanta dad maaragtay gurigooda aanan ku noolaan karin ma aha wixii jiro haddii khalad uu jiro inuu jiro waan aaminsanahay si laakiin u malayn mahayo in farmaajo xalin ay ka tahayo haddii ay ka tahay dhib xalin muqdisho 2 kilomitir ama 5 kilomitir square radius kama dhex bixi karo oo xasan sheekh meesha uga tagay u malayn mahayo inuu wax ku daray marka haddii uu horta wax inuu xureeyo doonayo ummadda muqdisho ayaa dhiban oo maalin walbaba dhibaatadooda qaraxooda meydkooda tacsiidooda ay taagan tahay tan hadda aad ka hadlayso mid lamid ah kuwaas ayuu horta u tacsiyeyn lahaa uu booqan lahaa wax u qaban lahaa ammaankooda u sugi lahaa kadib markaa kismaayo runtii xaq buu u lahaan lahaa annagana waa u garaabi lahay taas waxaa weeye midda kaloo jirto waxa weeyaan xagga free speech labadaba waa ku dhaliilaya farmaajo inta uu meesha yimid warbaahinta ciriiri aada u baahsan ayaa yimid ciriiriga warbaahinta looga hayo etoobiya dhaqankii etoobiya ayuu farmaajo ku dhaqda aniga sidaan aaminsanahay inta uu yimid warbaahintii madax banaaneed ee dowladda hay-adaheeda kala duwan kasoo warrami jirtay maanta way cabursan tahay waxaana xataa maquul in xataa kuwa qaarkood haddii ay sir helaan haddii ay soo faafiyaan in xarig iyo tacadi lala beegsanayo lamid ah sidoo kale kismaayo anigana waxaan leeyahay maxamedoobe ummadda aad buu u cariiriyaa ma banaan bixi karaan dareenkooda ma muujin karaan waxaan leeyahay axmedoobe waxaan ku leeyahay dadku waa dad xor ah waayahay aad buu u mahadsan yahay dhegeystaasi guud ahaan waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii habeen wanaagsan caawa fadlan intaanan barnaamijka ka bixin haddaad doonayso inaad dib u dhegeysato barnaamijka doodaheennana aad la socoto fadlan ku biir janalka saadaal production saadaal production waa janal youtube ah oo aad iga dhegeysan karto barnaamijyadan aad ka maqli karto ku biir saadaal production waxay u qoran tahay sida hadda axmed madoobe dushiisa eega feebarka dushiisa saadaal production ayaa ku qoran facebooka markuu live-ka dhammaado waa la tirtiraya xitaa elbrexi kuma jirayo marka ku biir janalka saadaal production dadka isoo wacay caawa waxaa jira dad weli qadka ku jira laakiin waqtigaan ii saamaxayn dadka isoo wacay 5 qof keliya ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku tilmaamay in ay saxan tahay inta kalena waxay yiraahdeen axmed madoobe saxan marka 5 qof kaliya ayaa axmed madoobe ka soo horjeesatay inta kalena waxay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya
ay qaldan tahay Axmed Madoobe uu saxan yahay waxa muuqata dadka Soomaaliyeed inay ku qanacsan yihiin siyaasadda Axmed Madoobe waxa ii muuqata maadaama dadka isoo wacay ay xor yihiin oo aysan jirin cid la caburiye ama cid la yiri fikradda sidaa u dhigay qof kasta isagoo xor u soo galay waxaa batay dadka ku qanacsan siyaasadda Axmed Madoobe waxaa yar dadka ku qanacsan siyaasadda dowladda Soomaaliya Axmed Madoobe wuxuu kasbaday sida muuqata shacabka Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda in iga soo kala wacay oo aan xitaa hal wadan ma joogaan qaaradaha kala duwan shanta qaaradood oo caalamka ayuu qof walba igala soo xiriiriyay way mahadsan yihiin haddaad doonayso inaad barnaamijka dib u dhegeysato doodaha aad la socoto maalin walba waxaa laga yaabaa inuu Facebook soo gelin oo inta badan doodaha waxaan ku qabanaa dhinaca YouTube-ka haddaadan Saadaal Production ku biirin waxaa meesha ka dhalanaya inaadan doodaha la socon karin marka ku biir Saadaal Production waa magaca ku dul qoran Axmed Madoobe intaan barnaamijka la mid kulmi doono waxaan ka cudur daaranayaa waqtigood ii saamaxayn dhegeystayaal weli qadadka ku jira mid la mid ah doodeena waxaad maqli doontaan maalmaha ama saacadaha nagu soo foolday isla maanta oo taariikhdu ku beegantahay 5 bisha 9 2018 ku biir Saadaal Production YouTube-ka gal ku qor Saadaal Production waxaad heli doontaa barnaamijyo dhaxalgala oo adiga ku raali geliya ku biir Saadaal Production si aad ula socoto barnaamijyadeena inta ka horeysana reer Facebook waxaan leeyahay live-ka markuu dhamaado waa la tirtirayaa marka ma sii arki doontaan xitaa hal daqiiqo ama ilbiriqsi ama wax la mid ah Saadaal Production ka dhigaysa barnaamijka dhameystiran nabadgelyo